marka laga qaaradda Afrika waa ciyaaryahan Emmanuel Adebayo Samuel Eto'o iyo sidoo kale JJ Okaja halkan waxa la soo xulay legendi Soomaaliya waqtigii dhexe marka uu soo ciyaariyay kubadda cagta sidoo kale waxa dhanka kale marka ciyaari doona xidigaha marka saddexda idin sheegay qaaradda Afrika ugu caansana iyo xidigaha qaaradda Afrika ee jooga gudaha dalkeena Soomaaliya isla markaana ka tirsan naadiyada kala gudsan dalkeena Soomaaliya qaar ka mid ah legendiska ayaa markaas halka ka muuqan doona goolhayaal ayaa sidoo kale marka jiri doona haddii ay baaha wadada soo galado halkan ayaan tibinta markaasi ka bilaabi doonaa waxaana tibinta ila wada doona saaxiibkay Cabdullaahi Xasan Suleymaan Baliil soo dhawow galabta maxay ka dhigantahay zaciimka waa maasantahay galabta waxa waaye maalin ka duwan maalmaha kale waaye waa maalin taariikh history waa maanta Soomaaliya u qorantay kubadda cagta Soomaaliya in halyeeyadii qaranka Soomaaliya aan soo daawanay Cabdi Baaskid aan u jeediyo Cali Cabdi Joon Dhooqayste waxa mudaa Maxamuud Gurey ciyaartoydii qaranka Soomaaliya soo matalay garsoorayaashii dhexe ee Soomaaliya ugu fiicnaa halyeeyadii kubadda cagta ee Afrika Maal Cabdi waxa loo dhiibay lambarka 10aad xaqiiqadii Soomaaliya waxa mudaa kulamada noocan oo kale in la joogtay waana maalin taariikh waaye waliba suurad qurxoon ka bixinaysa kubadda cagta Soomaaliya 30 sano ugu dambeysay wadankeena burbur ayuu la kowsaday dawlad la'aan jirtay laakiin hadda waxay ku tusinaysaa ifafaalo nabadeed in wadankeena Soomaaliya dhanka ammaanka iyo dhanka isdhexgalka bulshada uu soo hagaagay xaqiiqadii waxaana ammaan mudan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo sidoo kale wasaaradda isboortiga dhalinyarada bahda isboortiga shacab iyo dawladba waxa muddo iyagu isku duuban in la martigeliya dhalinyaradan iyo sidoo kalena bahda isboortiga zaciimka waa farxad weyn waa si fiican dabcan maanta waxay markaa ka dhigantahay in arintan markaas ay muujin doonto sida sheegtay in horumarka kubadda cagta dalka Soomaaliya marka hore u talaabay marka la eego saddexda ciyaartoy ee markaas xidigaha qaaradda Afrika ugu saameynta badnaa Adebayo iyo Samuel Eto'o iyo JJ Okaja in ay markaa yimaadaan dalkan ku yaala bariga qaaradda Afrika runtii maxay kaga dhigantahay dalkeena Soomaaliya maadaama saddexda ciyaartoy ay yihiin in markii ugu horeysay saddexdooda markaa wada socda isku soo raacaan wadan ka tirsan Geeska Afrika zaciimka horta waa booqashadii ugu horeysay waa East Africa ay ku yimaadaan waliba hadda Djibouti isu gudbidaan laakiin Soomaaliya in yimaadaan waxa ammaan iyo sidoo kale qofka waa loo qiraa wax qabadkiisa Soomaali jecel haduu jiro Suleymaan Xasan Waabiri Soomaaliya abaal ku leedahay guddiga qaaradda Afrika ahna guddiga xiriir kubadda cagta Djibouti booqashadiisii hadda waxay gool xaar u ahayd booqashooyin fara badan oo Soomaaliya madax ay ku imaan doonaan si sawirka guud ee Soomaaliya laga haysta Djibouti waa walaalaheen markaas waxay jecel yihiin horumarka Soomaaliya dhanka dawladnimada iyo dhanka isboortiga hadda marka Suleymaan xiriir kubadda cagta Soomaaliya kaashanaya in hadda ay ka wada shaqeeyaan in raggan magaca leh Eto'o aan naqaano JJ Okaja cidii ku soo gaartaa taqaano Emmanuel Adebayo ciyaartoy waxa waaye isku dar abaalmarinada ay best player Africa ay haystaan iyo Jambuligada ay haystaan waxay mucjiso ay soo dhigeen ay teetalada ay hayaan ayaa wax weyn kaaga dhigan waxayna ku dhigan tahay maanta in Soomaaliya suuradii hore laga haystay waxa ugu weyn horta ujeedada waxay tahay Soomaaliya banaankii ku ciyaartaa kulamada hoomka 30 sano la soo dhaafay martiyaan nahay anagoo garoon haysano tahay ka waran imagine maanta Soomaaliya oo qaranka Soomaaliya inta ku ciyaari lahaayeen sidoo noqon laha garoonkeena garoon standard caalami waa leenahay ujeedada marka waxay tahay in FIFA iyo CAF ay ogaadaan in Soomaaliya lagu ciyaari karo ay martigelin karto ciyaaraha internationalka ah banaanka ku ciyaari jirnaana in hadda kadib inta aan ku ciyaarno ujeedada ugu weyn laga leeyahay intaas waa dabcan waa arin markaas aad u wanaagsan kasoo aan soo karo arintaasi sanadaha markaas oo aadan dabcan hadii ay suurta gasho suurtagal laakiin hadda iyo sanadaha aniga aragtidii waxa isleeyahay labada sano ama 3 sano soo socto ma noqon karto suurtagal in marka home marka halkaan ku noqono laakiin dabcan tani waxay marka dhan kale ka dhigan tahay isleeyahay in kubadda cagta Soomaaliya isla marka u kacday Soomaaliya heli doonto mashaariic marka loo dhismaha garoomada iyo markaas barnaamijyada youth-ka marka dhalinta soo kori Soomaaliya in faalo wanaagsan ay marka uga bixiso markay laabtaan saddexda marka mas'uuliyiinta marka ka sakaafa iyo kaaf marka ka tirsan oo FIFA iyagu marka wakiilka ka ayay tan markaas muujinaysaa dhanka kale Balilow barnaamijkii waxa marka jirtay kooxo markaas ka socda Brazil iyo kooxo Talyaani ka socda halka marka yimid garoonka Stadium Muqdisho ma markii ugu horeysay kooxo ajaanib dalka marka yimaadaan laakiin saddex ciyaartoy oo kamid ah xidigaha ugu saameynta badan kubadda cagta qaaradda Afrika isla markaana iyagu kamid ah boqolka ciyaartoy marka la soo hadal qaado ugu saameynta badan kubadda cagta in ay markan yimaadaan oo hadda marka sanadkan yimaadaan ayay tan marka muujinaysaa balin sawir marka aad u wanaagsan waxaana markaas ay noqon doontaa mid aad markaas runtii looga dheehdo ciyaaryahan Isa Shakwa ayaa markaa muuqda waa tiimkii legendiska markaas African Legends ayaa halkan markaa muuqanaya balil waxa markaa ka muuqda xidiga fara badan oo markaa ciyaaraha horyaalka dalkeena Soomaaliya ayaa ii muuqanaya Emmanuel markaa uu kamid yahay Isa Shakwa oo kooxda degada markaa ka tirsan ayaa markaa ku jira Stephen ayaa markaa muuqda dabcan xidigii markaas ciyaarayay Somali Premier League ama horyaalka dalka Soomaaliya qaarkood ayaa la soo xulay oo markaa halka ka muuqan doona
safiican zaciimka sida hadda u jeedna ciyaartoodii way soo baxeen tiimka kale maaliyadii ay ku dheelayaan waxa waaye maaliyadii qaranka Soomaaliya waay kulli hadda waxa soo bixi doona Samuel Ito iyo Emmanuel Adebayor iyo JJ Okaja waxa moodaa marka si guud hadda waxa ii muuqda Macallin Saalax sidoo kale Ibrahim Shaawey ayaa ii muuqda taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir sidaa darteed maanta xafladan waxaa moodaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ay joogo ra'iisul wasaarihii madaxdii ugu sarreysay dalka way joogaan taasna waxay ku tusinaysaa sida muhiim uu yahay martidan in la soo dhaweeyaa laakiin zaciimka waxaa cusub mudan maanta intaan ciyaartooy oo sagaashamayadii iyo barnaamijkii qaranka Soomaaliya soo martay muuqda dhanka ee markaasi legend Soomaaliya waxa uu ciyaar doona Awil Bagani ay muuqdo tadiif ul xil Awil Bagani safiican Awil oo nin aan qaan ah oo sidoo kale waxa ii muuqda xitaa macallin ku xigeenkii Elman Miya Umarey waan u jeedaa zaciimka kulay waxa muuqda mid ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya marka ciyaaraya waa Diyeesha Dheere oo number 9 marka xiran oo laacibka kubadda kolayga kooxda Hegan isagu ahaa Diyeesha Dheere safiican zaciimka tiimka adeega ron tiim jiilkaaga waay digriga iga sii daran marka taada leeyahay laakiin Umarey Elfis muuqda Umarey Elfis mahaleey oo runtii ka mid ah laacibiintii kooxda Morris kooxda Elman ee runtii Umarey wuxuu ka mid yahay daaficida u fiicnaa dalka Soomaaliya ee soo maray Awil Bagani si lamid ah marka ahaa kooxda Morris ay marka caan ku ahaayeen oo bari marka ay jirtay kubadda cagta dalkeena Soomaaliya Abdulli Maxamed Maxamuud Abdi Joona marka jooga iyo sidoo kale Abdi Basket عبد الحمد الشيخ عبد الباسكت oo kamid ah laacibiintii ugu mudnaa kubadda cagta dalkeena Soomaaliya ay runtii kaamiradu markaa haysaa oo kooxdii Haajis Elman iyo koox afar badan Banaadir markaa ku soo ciyaaray runtii galabta halkan lagama maqna barin zaciimka lagama maqnaa waxa ii muuqda Yaasiin Cabdulqaadir Mayow Shariifow ninkii aan oranayay runtii waxa uu dhigmay haddii ciyaartoy professional markaa uu jiri lahaa ciyaartoy professional barilow haddii la sheegi lahaa ninkan xilligaasi ciyaaraanka Iniesta ninka zaciimka inkastoo aan ku soo gaarin oo aan daawan nasiib u yeelan haddana ma joogin Stadio Conis ma joogin laakiin tiimkan waxaa moodaa zaciimka sida hadda sheekadaada aan ka maqlayo tiimkii ugu qurxoonaa ee kubadda cagta Soomaaliya waay Mustafa Fransa inkastoo jirkii dambe sagaashamayadii kadib Cabdikuusa joogo Macallin Abdi Joona joogo laakiin la soco Maxamuud Gurey waxaa moodaa ilaa hadda salaxyada garoomada ku dheelaa Ramadaanka daawanay waa fid waay waa salaxyada degmada Boondheer ku daawanay waliba garsoorayaasha daana hilmaamay zaciimka Xasan Aadi waxa joogo Rawish waxa joogo Aweysa joogo waxa joogo Basaali gudoomiyaha garsoorayaasha caaw magaalada markaa qaban doona ciyaarta waana taariikh runtii weyn gudoomiyaha garsoorka xiriirka kubadda cagta dalka ayaa halkan markaa qaban doona safiican kulay tiimkii hadda waa la sugaa tiimkii soo bixi doona zaciimka waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed iyo bahweynta isboortiga inaan ugu baaqno in ciyaartan ay si nidaam u daawadaan maanta suuradda la bixin doona ayaa suurad ka duwan suuradii hore waayo image-kan maanta la bixiyaa waxay ku xirnaa doontaa future-ka mustaqbalka kubadda cagta ee Soomaaliya marka daawadayaashu u daawasho tagay garoonka ciyaartan Soomaaliya iska leh Soomaaliya martigelisay waxayna ku xirnaa doontaa hadba sida ay noqoto marka ciyaartooyda qaranka inaan daawarna halkan waa sharaf waay taageero fara badan garoonka joogo dad badan garoonka banaankiisa dhooban balilow maxaa laga filan karaa xidigii markaasi laacibiintii kubadda cagta dalkeena Soomaaliya berigii dhexe ayaa halkan markaa ka muuqanay runtii qaarkood culays markaa uu ka muuqdo qaarkood fida dhanka saxaafadda waxaa nagu matalay Maxamed Qadar oo markaa isla garoonka ka soo muuqday galabta oo markaa ciyaari doona ciyaartan halka dhanka kale reer social media aan arkayay God Gesi zaciimka si baasha loo shuurtay nimankan xoogaa odayaal daalan ay yihiin maadaama mar hore ay ugu dambeysay kubadda cagta Cabdullaahi Faarax u jeeda Haajis ninkii kabtankaagii ayaa u jeeda Haajis ay team Haajis tahay waxaan u jeedaa Maxamed Qadar xoogaa lagu kabay Catoosha ku jiro oo hadda waliba ciyaaro active ciyaartooyda active ka dhankan God Gesi iyo dhowr ciyaaryahan lagu kabay Ibrahim Shaawey oo hadda ciyaara horyaalka ka ciyaara Zakariya waliba dadka God Gesi social media bisa u maleeyaan ninkan degmadii Shibis waati golaya u ahaa waa dad social media waliba ku jira waay marka maanta waxaad moodaa waa maanta maalin weyn waay bahda isboortiga Soomaaliyeed oo kamida marka la fiiriyo maalmaha ugu weyn ee kubadda cagta Soomaaliya isuguud marka maanta kulay in protocol kala saxa nidaamka la dhowraa waa waxa ugu weyn waay xogaa waxaad moodaa in tiimka media inay aad u fara badan yihiin maanta media fara badan ay imaaday ciidankii saaka yimid ilaa hadda zaciimka isku jahwaraysan yihiin marka in ciidamada lala shaqeeyo
dadkii saagay albagin hadda u jeeda waraysiya lala yeelan rabaa kulay wuxuu ahaa ciyaartoydii barsimaadka ee qaranka Soomaaliya Zaciimka marka hadda aad qiimeyso ciyaartoyda maanta la soo xulay yaad isleedahay waa ugu laacibsan yahay dhankaaga dabcan hadba waxay markaa garoon ka keenaan ayaa markaa la arki doonaa laakiin ciyaartoyda qaarkood waa fit marka la gada ahaan ee culayska markaa ka muuqda xidigaha runtii aniga haddii mid iyo laba aan tilmaamo waxaa la oran doontaa hebela markaa taageersan dadka markaa dhigi doona laakiin dhammaantood waan amaanaya xidigaha waxaa la eegi doonaa performance-ga ay markaa ku soo bandhigaan gudaha garoonka ayaan markaa eegi doonaa runtii Catoosh waa ciyaartoyda hadda ciyaartu ka mid yahay runtii waxaan eegi doonaa aniga si fiican u daawan doonaa waxa ay sameeyaan Yaasiin Cabdulqaadir Mayo Shariifow injineerka runtii kubadiis waxay ugu dambeysay sanad runtii aad u fara badan laakiin galabta waa u soo muuqan doona markii ugu horeysay marka Yaasiin daawan doona Cabdijoon waa fit salaxida marka ku aragtaa Catoosh waa fit Maxamuud Gurey waa fit dabcan xidig aad u fara badan oo marka fida halka marka ka buuxa laakiin hadda waxay Cabdibaaskid dabcan macallin haddana wuxuu ka yimid dhanka iyo garow ka yimid wuxuu ka mid yahay macallimiinta koorsada marka tababarayaashu marka mid yahay Anas iyo Ali macallinka xulka qaranka dalka Soomaaliya runtii nimcaana dhanka dheeli doona ha runtii sheekada runtii aad iyo marka u kulushahay waxaana markaas ay noqon doontaa mid marka la arko hadba waxay garoonka ku soo bandhigaan xidiga runtii dhanka kale maxaa laga filan karaa Baliil etu iyo ninkii Eman Adebayo ma samee JJ Okaja waxaan oran lahaa runtii waxaan ku tilmaami karaa JJ haddii uusan noolaan lahayn koomka uusan joogayn ciyaaryahan Ronaldinho Gaucho ninkaas wuxuu noqon lahaa kubadda cagta ninka markaa la hadla runtii si fiican JJ Okaja oo Nigeria u dhashay Samuel Eto'o oo Cameroon u dhashay ahna gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Cameroon sidoo kale ciyaaryahanka kale ee lagu magacaabo Emmanuel Adebayo oo Togo u dhashay waxaad moodaa maanta halka mucjiso ku soo bandhigi doonaan xaqiiqdii xilligoodana xilli guuleysa ay ahaayeen waa taqaanaan kooxihii u soo ciyaaray Samuel Eto'o Champions League u qaaday World Best Player Africa u qaaday wuxuu African Best Player u qaaday muxuu ahaa sidoo kale ninkii muxuu ahaa Togo Emmanuel Adebayo sidoo kale marka si guud maanta waxaad moodaa halkan inay ka dhici doonto 30 sano ee la soo dhaafay Soomaaliya ciyaar ka mid ah ciyaaraha ugu qiimaha badnaa marka sida idin leeyahay ciyaaro ka qiimo badan waa ay jireen laakiin ciyaartan suuradda Soomaaliya maanta ay bixisaa waxay ku xirnaa doontaa future-ka mustaqbalkooda kubadda cagta Soomaaliya Zaciimka ma moodaa in ciyaartoydii U2 ilmo yar loo soo xulay halka la jannaa joogo maxay tahay laakiin ogow dhanka kale way ku jiraan xidigaha ciyaartoy active dhanka kale way ku jiraan xidigaha Legendska qaranka Afrika waxa uu ciyaaraya Zakariya Shakuwa iyo Emmanuel iyo xidiga fara badan joogo hadda marka uu ciyaara kooxa Ibrahim Bangura joogo Ibrahim Bangura uu ciyaaraya marka dhankooda waxay tahay waa fit aniga waxa oran lahaa marka labada team la isku miisaan ahaan culayska iyo xidigaha markaas culayskooda iyo wax waaye badan qaarkood kubadda cagta ugu dambaysiyo waxaan oran karaa waa ay sameeyeen sababtoo inta halkan Awil Bagani iyo Abdullahi Faarax iyo muddo Broli ugu muddo bil ha rag cuslaada ay marka iyo dhan kale rag cuslaada marka ku jira hay marka harada farda la iswaayo waxa la isma faasho halkan wixii ka dhacan galabta ay gadoona u joognaa asxaabta dunida marka naga daawanaysana marka aynu u tibin doonaa insha Allah Zaciimka horta daqiiqada badan lama dheeli doono hadii ugu badnaato 30 daqiiqo la dheeli doonaa inkastoo aan waqtiga rasmiga aanan haynin oo la soo sheegi doono iyo line up rasmiga ah kulli hadda teamka soo bixi doona Samuel Eto'o Bliss iyo sidoo kalena JJ Okaja halkan waxaa moodaa marka inay saxaafadda la hadli doonaan warbaahin caalamiya la socota oo Afrika iyo East Africa iyo sidoo kale Sakafa wakaaladaha wararka telefishinada caalamka waxyaabaha u soo raaceen waxay yihiin in suuradda Soomaaliya maanta la bixiyaa madaxdii ugu sarreysa joogta marka كل أوشان ستاريس وكذا سيد علي كوكاي أنا قانو علم كترسن سيدو كلا مصطفى فرنسا رفع بنا كوسو بيري حليق بنا كورنين عبد كوسو كلا برقاي عبد جون عطوش حسن كرل نكي هوري بنادر تلكم يو علي معانك حلقة قرن كصوماليا ديش ديره سيدو كلا محمود قري waxyaabaha la yaab kale waxa marka ah barilow macallin yu cali macallinka xulka qaranka dalka Soomaaliya habeen ka hor wuxuu joogay dalka Qatar wuxuu ka qayb galay islaamkii markaas iskuadkii carabtu ka qayb galay waa uu soo duulay maanta waa yimid hor ka ciyaaraya intaas waxay ku tusinaysaa sida uu jecel yahay maaliyadiisa waliba ogaa macallin yu cali wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda ku-tiriska ah ee Zaciimka dishbiliinka iyo akhlaaqda ciyaartoydii dambe macallimiinta qaarkood waxaad moodaa waliba ciyaartooyda macallimiinta aan la dagaalin waayihiisii macallin waa uu guuleysay waatii triple miya saddex koob isku xigta uu qaaday kooxda kubadda cagta ee dekada horyaalna waxa moodaa haajis ciyaaryahan u ahaa ciyaaryahan saf yani waliba waxa moodaa hadda tiimkii way xaroonayaan qolka la geli doonaa line-up kala soo shaacin doonaa inkastoo waxaan ka wadaa ciyaartooyda gudaha soo geli doonaan kadibna officialka rasmiga la dheeli doonaa Zaciimka ciyaarahan adduunka live waaye
baraha bulshada iyo telefishinna leef waay adduunka laga daawana suuradda maanta annaga aan gudbino ay ku xiran tahay mustaqbalkeena kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya maadaama Soomaaliya image-ka laga bixin doono raggan ay bixin doonaan ay tahay war hadda waxa yimid kaaf waxa yimid musaab ninkan koonfur afrikaanka oo wadamada East Africa cid badan ka helay ninkan hadda FIFA joogo uu heelan yahay Infantino Soomaaliya Suleymaan ayaana ka shaqeynay Suleymaan waa bari lama hilmaamo waay taariikh u leeyahay history marka maanta aan aragna zaciimka halkan waxa ka dhici doona kulli halkan waxa muuqda Steven ciyaaryahankii MCC koobka kula guuleysay ciyaartooyda ugu professionalsana ee ajnabiga Ibrahim Bangura MCC macal xiisha u jeeda xiisha joogo xiis suufisir ma qabe safiican ayaa kamid laacibiintii dalka banaadir u soo ciyaarey xiis taariikhiis ma taqaana xiis kulli waa ciyaartoydii dambe waay salaxaydan ku arkay ma aqaan inaad banaadir golayaha afar badan u ciyaaray waxaan u jeedaa qaranka Soomaaliya waa nin waayeel waa madax xataa waa cadaalad zaciimka diisha dheer uu duqow laftigiisa inkastoo waayay dama basketballka oo u go'ay marka zaciimka ganacsatada Soomaaliyeed bahdi isboortiga muuqdo gudoomiyihii Sheekh Saalax iyo sidoo kale gudoomiyihii isboortiga degmada ee warta nabadda markaa jooga safiican saacid macal saacid marka si guud waxaad moodaa Catoosha joogo nimcan hilaac maanta halka marka ciyaar weyn ka dhici doonta bahdi isboortiga waa u diyaar garoobeen inay martigelis ciyaartan xiiso badan leh Samuel Ito Bilis iyo dhamaan iyagana hadda way joogaan madaxdii ugu sareysa dalka imaan doonta gudoomiyaha uu jooga gobolka Banaadir waxa gudoomiye Cali Shiin hadda garoonka soo galay gudoomiyaha martida loo yahay dabcan bariil waxaan markaas in la xuso markaa mudan aan markaa la inkiri karin tan markii runtii gudigan cusub ee fulinta xiriirka kubadda cagta dalka Soomaaliya ee uu gudoomiyaha u yahay Cali Shiin runtii inay isbedel muuqda ka sameeyeen kubadda cagta dalka gaar ahaan tan gobolada iyo sidoo kale magaalada caasimadda Muqdisho waxaan ognahay in dhawaantan magaalada markaas Garowe ee xarunta Puntland lagu qabtay tababarkii dhanka markaas coaching course ee lesson D waxaan ogeyn Soomaaliya waxay lahayd bariilow tababareen aad u fara badan waxyaabaha markaa la yaab kale ee hadda markaa in la xuso mudan ee horumarka markaa laga sameeyay bariil waxaan ka xusi karaa macluul amiin aad ogeyd in Soomaaliya uu qaaday koobkan Sabtiinka bariil ma haysan shahaado caalami شهادة عالمية زعيمك حقيقي حركة كوبا عقتا أمان معها قف وحو قبطال وأمانة وحو كوهسين والو قليلا إن حركة الصومالية كوبا عقتا saddex waxyaabood way ku guuleysteen oo ah in la kordhiyo koorsooyinka la siiyo tababarayaasha macallimiinta waxa xusud mudan Ilaahay mahadiisa zaciimka in maanta kooxaha 25 ka hal macallin ajnabi aanu ku jirin taas Ilaahay mahadiisa waay dhamaantood Soomaali yihiin wali macallimiin daayar macal Abbas awgeed macallin Daadir Amiin oo horyaalka haysto shahaadadii oo ogolaanaysa inay ka tartamaan marka ay wadaan kooxda dibadda geeyaan waa haysan fiiri maalin hore waxa baxday Soomaali ku qasbayay in marka balilow macallimiin ajaanib la kale waxay ahayd ma haysan ogolaasho shahaadooyin kooxda dekada waxay ka qayb gashay koobkii CAF Champions League macallin Faryara raacay waayo macallinkii ma haysto shahaado ma haysto Faryara haysto kaliya Faryara iyo macallin ha dadka ha ogaadeen shahaadada caalamiga ee marka ogolaanayso in macallinku ka soo muuqdo tajline-ka wadamada qaaradda Afrika waxa ay ahayd inuu haysto shahaadada inuu haysto ama B ama C waa inuu marka shahaado ogolaanaysa inuu qaaradda Afrika marka ama wadamada carabta uu tago macallinku ka soo muuqdeen marka laba macallin ayaa Soomaaliya ka haysatay marka taariikhda la eego marka la cusub gudaha dalka waa macallin Caawil iyo macallin Faryar waa bariilka ku wada safiican marka macallimiintan hadda marka shahaadooyinka qaadanaya waxa moodaa inay tartamo qaban karaan kulli hadda wafdiga wasaaraha hadda soo gaaray oo garoonka soo gali doona tiimkiisa u jeeda oo Nasr Bashiir iyo kala cararayaan marka si guud zaciimka waxa moodaa macallimiinta faraha badan leh tababarada loo sameeyay Soomaaliya faa'iido u tahay sidoo kale in ciyaartooydii ay noo soo baxaan iyaga laftigooda koorsaan la siina hadda uu tubaal mayman oo macallimiin ay qaadanayaan macal Abbas tababareen noqonayaan macallin Daadir Amiin shahaado oo haysta way hadda MCC waxay ka qayb galaysaa koobka Champions League waxyaabaha horumarka la bariil marka la talaanayo waxa kamid xitaa hadii marka hore marka loo oran jiray in kubadda cagta ay ku egtahay magaalada caasimadda Muqdisho waxaan ognahay magaalada Beledweyne waxa laga furay center markaas laga soo saaray youth-ka laga furay Kismaayo sidoo kamid ah xiriirka waa u tagay wuxuu ka furay waa xarunta Puntland Garowe hadda Sinmara marka ku soo xiray Cabdibaaskii marka ay soo xireen marka runtii hadii la oranayo kubadda cagta waxay ku egtahay gudaha caasimadda hadda runtii xiriirkan wuxuu ku talaabsaday in banaanka gobolada dalka marka uu geeyo tababarada iyo tartamada sidoo kale waliba zaciimka xooga tiimka shaqeynaya tiim dhalinyaro waay oo xiriir kubadda cagta fiildigeed aan ka baxsanayn Cabdibaaskii aan ognahay macal Muraad aan ognahay macal Caawil macal Baasaale macallimiinta Xasan Wiish oo hadda soo laabtay oo gudoomiyaha garsoorayaasha ah maantana ciyaartan haya marka xiriir kubadda cagta hal mid u dhiman oo kaliya in horyaalka kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya kooxaha ka qayb galay maadaama ay magaalada Muqdisho ku kooban yihiin
halka dhaliil ee loo soo jiidana waxay tahay in xoogaana waxaa diidaya security-ga waay taasi waxay ku xiran tahay balilow dhaqaalahana way ku xiran tahay dhaqaalaha way ku xiran tahay isu socodka ma jiro maalgelin ma jirto adduunka waxaa maalgeliya shirkadaha dawladaha shirkadahana ganacsadana way jiifaan xiriir kubadda cagta lacag yar oo waxaa jirto khidmo ah oo FIFA iyo CAF oo weliba kab ah oo xafiisyada kirideeda ah taana horyaal lagu moodi karo bangiga IBS hadda horyaalka maalgeliya kiina kuma filno marka waxaa moodaa si guud zaciimka maanta waxaa moodaa hadda wafdigii way soo gaareen ra'iisul wasaaraha waa la soo geli doonaa garoonka ciyaarta rasmiga ahayd waa la soo galay kulli hadda waxaa moodaa marka ciyaartoydu way soo galeen garoonka macalin muraad ayaa ahmad officialka kulanka maanta oo aan ognahay inuu yahay macalin level haysto akademiga kooxda Brigham wax weyn ka soo gudoomiye wiish garsoorka ciyaarta waaye marka si guud maanta zaciimka ciyaartan waxay tahay ciyaar saameyn la waaye kubadda cagta ee dalkana Soomaaliyana wax weyn ku soo kordhin kartaa markaan u imaano arinta xiriir kubadda cagta kulli maalintaan ahayn kooxa Kismaayo ka socda kooxa Baydhabo ka socda kooxa ka socda Garowe kooxa ka socda Jowhar kooxii Isnaa'iyo inay ka qayb galaan waa rajayn doonaa kulli saddexda ciyaaryahanna si qaas ah u soo bixi doonaan daawadayaasha TV-ga safaa la geli doonaa sida markaad daawanaysaan safay galayaan ciyaartoyda Somali Legends iyo African Legends safaa markaa la wada galayaan sida markaa arkaysaan صفي عن كل هذا صفا لقلي دنا يعني دي كلا شيخنا فنانها بلوغا وحي مركا متليان افريكان ليجندز مرتida ay markaasi la jiraan xidigaha fanaanada buluuga waa Samuel Eto'o iyo asxaabtiisii dhanka markaa fanaanada cadaankana waa legendska dalkeena Soomaaliya صفي عن labada teamba kulli ruusaaraha ayaa salaan ka qaadan doona ruusaaraha imaan doona safka baliilo xali waxaan arkay xitaa wasiirka qornaa inuu markaa ciyaaro wasiirka sportiga qornaa maya waa daalow dhahay ما أنت ولا نسعد معنا صحوة لكن قشة وجود بالكورة وجود نيكا والله بقول والله دقمة حمرين كوب وقايل أبوكن أفري تمانكي كل هذا الوزراء تيم كيس صباح دونا وحلا صعدة تليه بوليسكا الصومالية تليه بوليسكا دبل صعدة وحلا صعدة تليه كل السياسة هذا السياسة سياسيين تكملنا مركب واحد مدة وزراء نقدر يروي نجعل واي بعض سبورتيجا سيقول مركب واحد مدة ما أنت سمو اليوتيوب ودبل صعدة وقواسا marka way soo galeen ciyaartoydii Samuel Eto'o wasiirka wala socda Rizal Hamza wala socda Samuel Eto'o waa kaasa Samuel Eto'o fleece wuxuu xiran lambarkiisa caanka sagaal Sulaymaan waa bari wala socda waa bari ciyaaraya gudoomiye ku-xigeenka qaaradda Afrika gudiga fulinta FIFA wala socda gudoomiye Ali wala socda marka wasiirku waa ciyaaraya ku sheegay waa ciyaaraya wasiirka Jaji Okaja waa kaasa isagana waa wata fanaanadiisa waa wata تيم سكورتي أدو في عنا لصعدة وزارة أنا توبرها مودي وزارة توبرها مودي توبرها خطرة صفي عنا واللي بزعيم كان نكان اللي يرضى وزيرك أمانة مودية حقيقة دي أمانة مودية نكلم أنتي سؤال وقيمة وأنا سبورتي واي وزيرك يهرن وحبو قبتي وزارة دان وحي هالشيء مركل لك هذا بعض سبورت وحي والله ذهب نقدر يرى وها بعض سبورتي هالشيء محمد بري واو تذالي شقف في عنه قبت محمد بري هذا وزارة وها مركز وزيرك ciyaaryahan kubadda cagta waxa wasiir ku-xigeenka legendis gabar markaasi u soo ciyaartay xulka kubadda kolayga dalkeena Soomaaliya Dahabo Suusow safi aan Jaji Okaji waliba wuxuu salaan siinayaa ciyaaryahan yaro dadka xoga baayaga Sulaymaan waa bari waa kaasa Samuel Eto'o hatta uu yimid xaqiiqdii marka waxa moodaa zaciimka maanta suurada la bixinaya ayaa suurad aad iyo aad u qurxoon waay marka waxa leenahay bahdii sportiga nagu raaxaystaano adabiyor waa jooga adabiyor waa jooga horta Eto'o lambar 9 wata Sulaymaan waa bari 22 wata waxa socda ruusaarihi Hamza Cabdi Barre تليه بوليسكا تليه كوجين رئيس الوزراء كوبي صدروا وتا رئيس الوزراء يعني رئيس الوزراء وزيرك هذا وزيرك سبورتيك صفي عن مركز سيقول زعيم كمان تا سليمان حقيقي إسقى ضد كان كيني إسقى نو كيني إلهي كسكو جيبوتي ولا شقي وزارة سبورتيك أيضا وحيل هذا أمان أماني مذيع مركا صعب كصومالية وحواي وحربها إن أشجع إن ما تعيارتان أي عيار وين أو تاريخ صومالي هراء أنا أقول يعني الرجال مسؤولين تا أي مدان أي كعياران قروك استاد مقدشو وحوين أنا أقول لك أنت مركا بريم رئيسر كي إنه صعدوا أو نكي ضلك نكي لبعض ضلك وقص الرياء واحد يكرنا وحواي فرحد وين ونكي جيجي وكاجوا كاسا قدال وجود زعيمك صورنا اللي قالوا يابا مركا فرحد وين أي نوتاي كل طبعا قلت عن رجيدنا إنه فرسمة اللي يابكر ما كانوا تسجيجي جيجي كبدوا الله هذا كبدوا الله هذا اللي كانوا فرسمة يدربلين صفي عن ان نكي شاوي اها اي تيم كيسي تليا افتح شاوي عيالنا مسؤولية قبل كبنادر واي وتيم دلنير واي زعيمك ان لا اسلح قرا wax weyn ku tusanaysa in
wasiirkii isboortiga maanta Dubumo soo gashay uu dheelay waliba dadka waxa laga yaabaa in isweydiiyaan ninka 2014 degmada Xamarweyne oo koobka degmooyinka uu la qaaday asoo kabtana salaxida caano ilaa hadda bilyaardigu wuxuu ku dheelaa saaxiibkan Jarjaclow meeshiis oo yimaada asoo wasiira marka dadkaas dhalinyarada ah inay soo dhex galaan dhalinyarada quattro wata ninkii ya ninkii lambar 4 wata jeje kaja ma yadabayo dabyar ha lambar 4 wata safiican marka waxa moodaa waliba aad loo ilaalinaa ziciimka sida u jeednaba garoonka la gali doona ra'iisul wasaaraha media oo la hadli doona marka maanta inay dib looga dhigaana runtii aan ka jeclaan laakiin oo la ciyaaro maanta safiican oo la dheelo kulli ciyaar qurxoon halkan ka dhici doonta Soomaali lejan wasiirka hadda kubadda haysta Suleymaan Waaberi iyo Samuel Eto'o isku team way marka waliba ogaw ziciimka Samuel Eto'o aan dhahay Suleymaan Waaberi doorashadiisii uu ku galay FIFA ha konsolka qaaradda Afrika ka tirsan waliba bariga Afrika oo noqday xubin FIFA waliba Eto'o kaalin weyn ku lahaa maadaama dadkan luqadda Faransiiska ku wada hadlaa maadaama wadamada Faransiiska maadaama uu yahay Cameroon uu yahay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Cameroon uu yahay macnaha wadamada Faransiiska ku wada hadlaa isaga ay u codeeyeen Eto'o isu codeyn karay laakiin Suleymaan maadaama nin wax gala oo wax isku wadi kara uu yahay ha waliba Eto'o way dambe xogaa eedeen iyo waxa daba socotay laakiin waxa moodaa in arinta anaga imaatinkiisi wax weyn nala tahay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta hadda garab taagan Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine wasiirkii isboortiga iyo ra'iisul wasaaraha saddexda mas'uul ee ugu sarreeya maanta ayaga waay ra'iisul wasaaraha dalka ugu sarreeya laakiin marka garoonka la yimaado Cali ugu sarreeya marka garoonka la yimaado FIFA ay tagtana Suleymaan ugu sarreeya way baash waxay leedahay jaranjar ay leedahay xilalka dawladda insaas loo kala fahmaa fiican maalin hore dhacda halkan ka dhacay ziciimka dad badan isweydiiyeen oo garoonkan waxa maamula football lagu maamulaa qof kasta iskama soo gali karo marka maanta waxa moodaa in ra'iisul wasaaraha dalka uu socdo Samuel Eto'o uu socdo Suleymaan uu socdo kulli Eto'o hadda kabtanamadii loo xiray ha Suleymaan waa uu furay Suleymaan adaa lagu sharfay maadaama igida aweynta la yiri adiga qaado marka Samuel Eto'o maadaama wuxuu yiri maadaama adiga igli jeesan tahay adiga qaado waxaan rabnaa in markaas aan xoogaa marka brief aan siin saddexda ciyaartooy marka qaaradda Afrika marka la joogto maanta waa saddexda ciyaartooy ugu weyn marka loo eego kubadda cagta qaaradda Afrika ugu wanaagsanaa ayay markaa ku jiraan sidoo kalena waxay ku jiraan marka la eego dhan kale boqolka ciyaartooy ugu saameynta badan kubadda cagta dunida ayay qayb ka yihiin aan ku sheego hadda ninka kabtanimada markaa qaatay ciyaaryahanka markaasi Samuel Eto'o Feliz 10kii bishii markaasi March 1981 ayuu ku dhashay magaalada Douala ee dalka Cameroon waa 44 sano jir طبعا ديجري ما هي ديجري لحسن عملوا كويا واتاي نيكا وحو سو عياري كوعا ريال مدريد او دنك وير كوغو عياري نمبر 9 iyo markaa xirna Barcelona uu ciyaaray Catalonia نمبر 9 uu xirna Inter Milan oo dalka Talyaaniga uu ciyaaray sidoo kale xidigan caalamiga Samuel Eto'o Feliz ninkan waxa markaasi uu ahaa xidig professional dhalinta goolasha markaa ku caan baxay waliba kooxda kubadda cagta Barcelona barilow waxa la xusuusanaa in si la yaab loo markaa uga tagay oo markaa cara ahayd oo aad loo xumiyay laakiin uu ku liibaano waati sanadkiiba oo Champions League uu la qaaday triple-kii Jose Mourinho xilli ciyaareedkii 2009-2010 abaamarnada Afrika 5 jeer miyaa ka badan oo qaatay xidiga sanadka qaaradda Afrika dhan kale Benino waxa markaa jirta in ninkan marka laga soo tago saddexda kooxood waaweyn ay imika ku sheegay galiyahay saddexda koox ee ugu waaweyn ku sheegay hadda Real Madrid Barcelona Inter Milan kooxo kale u soo ciyaaray ninkan kooxo kale u soo ciyaaray halkan waxa markaa qoran inuu markaa dalka Qatar xitaa markaa uu ka soo xamaashay oo sidoo kale markaa kooxda la yiraahdo Konyaspor ayuu sidoo kale markaasi aaday dalka Turkiga markaa ku biray oo uu ciyaarayay Benino su'aal kale jirta sheeko markaa la yaab leh ninka waa Cameroon dhalasho kale weystaa sheeg Francis Mia maya waa Isbaaniyol أو صوب ليش اسمه قال انتو ريال جو قات اوكي ليش قات والله حتى هذيك العلا هدا تكتو وعن ارقنا ان انغا waxaan nirana qurba joog halkan waxa iimaanaya nin london kii hada walaalka oo kale ingiriis ku jooga markuu iimaado qurba joog marka waa ingiriis iyo Soomaali England Soomaali British intuu marka maadaama xirfadiisii halkaas ka soo bilaabay marka halka uu ka soo xamaashay dhalashu qaatay hay marka waa sidaa ninkan taariikhdiisii oo kooban ayaan marka idin amaahayay dhanka kale aan aado xidiga markaas caalamiga ee liido Emmanuel Adebayo waa wiil reer markaa tooga isna 1984 ayuu markaa dhashay 26 bishii February waa 41 sano jir adiga asiga yaa runtii maya ninkan way dhali karaa baani ninka ada xogaa isku daajiyay 41 sano jir waa taa Emmanuel Adebayo 40 uu jira ninkan 2020 kooxda Olympia la yiraahdo ayuu markaa ku biray dalkaasi Greega sidoo kale kooxda Konyaspor ayuu markaa u ciyaaray 2019 ayuu ciyaaray sidoo kale kooxaha caanka Manchester City Tottenham Hotspur
ayuu sidoo kale ninkaa u ciyaaray ogow ninkaa tafaah dheer leh wuxuu ahaa laacib weyn oo isaga waa la baasay kubadda hadda kulley in official kulanka loo bilaabo bisa dhiman garoonka laga soo wada baxa kulley wixii hadal gadaal waaye kulley wasaaraha iyo gudoomiye cali iyo waxa wada hadli doona Samuel Ito iyo Sulaymaan ha in ciyaarta kadib la wada hadlaa fiican Emmanuel Adebayo waa saxiibka waa tahay Adebayo talaabo dheer ninka muxuu jeestay aad u jeestay wali wuxuu kamid ahaa ciyaartoydii Arsenal intuu ka tagay Man City u aaday intuu gool ka dhaliyo ku dabaaldegay oo taageerayaasha ay caawiyeen ma xushmaan way may ciilo u qabay ha safiican marka waxa moodaa maanta halkan ciyaar xiiso badan ka dhici doonta wuxuu gacan Adebayo wuxuu gacan qaadaya marka laga ciyaartoyda taageerayaasha iraado marka gacan qaadaya wuxuu soo aaday dhanka taageerayaasha gacan marka u haatinaya هذا runtii waxaad moodaa inuu isagoo keed markaa noqon doono waa keed ninkan safiican keed way may wuxuu yiri safara ku soo daalay saaku sheegay safara ku soo daalay wuxuu dhaal caaw noga dhigay 48 saacadood ayuu soo safray marka tiimka waliba maanta tiimka wasaaraha waa ku amaana qaabka protocol kale ee fanaanadaha qaranka Soomaaliya u soo gashteen waa amaani mudiyihiin waayo football way wasaaraha waxa muddo toobra kooxda muddo safiican toobaraha runtii muddo fanaanadaha qaranka ay wataan isna wuxuu wataa jaakadii runtii marka waa isaga iyaga waa team isna waa marka macallinkii waay kulli wasaaraha ciyaarana ku fiican marka teamkiisa security balsan doona ma teamka security waxa ka dhigi doona ma wasaaraha waa tumeena bas ku fiicnaa waa dheer kulli marka waxa moodaa hadda wasaaraha qaybta VIP da soo fuuli doona JJ Okaja kursi aan leeyahay ninkii Adebayo kursi kaadka waay waa soo daalo yiri kulli aniga guul waxa u rajaynaynaa teamkeena qaranka Soomaaliya ayaan guul u rajayn doonaa xagga bas saddexda Soomaaliya inooga jirto xagga ku jiro waxa ku jiro goodgeesi waliba ogow waxyaabo la yaab kale ee ciyaarahan ay u weyn yihiin Brilo waxa markaa ku jira Koroja xalu yimid xalu soo galay safiican xalu Ingiriis ka yimid marka runtii si la mid ah Cali qadar ku yimid shaqo ku yimid runtii inuu kulanka markaa uu yahay kulan aad u weyn qiimo markaa ugu fadhiya dalkeena Soomaaliya ayuu tani markaa ay qayb ka tahay runtii halka ra'iisul wasaaraha ay tiimkiisa fariisanaya qaybta VIP da sida markaa idin muuqanaysa safiican kulli hadda madaxdii qaybta sare soo fuuleen sida protocol ka ahayd wasiirkii sportiga asaga wuxuu yiri aniga waa isku leena waa dheela JJ Okaja iyo tiimkan kale macalxiish iyo waxa muddo iyagana in had isku leenayaan ninkii waa u jeedaa JJ Okaja isagana in qaybta sare hadda uu ku sii almiiteenayo tiimkan Yu Cali iyo Macali Cabdi iyo kulanka si rasmi ah loo bilaabi doona aniga sharaad dhiga doono caawa cashan kulli ku siin doona haddii aad sheegto natiijada maya haddii natiijada ciyaarta ku dhamaatay aad sheegto haddii natiijada rasmi ah rabaa ogow natiijada ciyaarta ku dhamaanaysa aad sheegto caawa cashan ugu leedahay badis ma ku sheegaa mise natiijada badis aniga waa dhigi karaa barbadhac laakiin natiijada aniga 3-1 waxa ku badinaya tiimka Samuel Ito tiimkaas dhexle ku doonaa waati aniga ciyaarta waxaan leeyahay saadaashid maxay balan qaadi laakiin maya aniga waxaan ku maya 10 ay dhahan 10 labadan ku siina aniga ku siina waliba la yaqaan oo $15 waliba anigana laba xamar ku geena caawa laba xamar oo ka soo horjeeda goolka Banaadir laakiin doorada ma cuno ogow ani dooro ma maro baash maxalla digaagada shimbirta ninkii digri maalin hore dooro cuno wajiga ka baran shimbirta ma cuno sababta ku sheega shimbirtan runtii mana ka hor imaanaya ganacsiyada Soomaaliyeed laakiin shimbirtan bari waxaan isweydiiyay yaa soo qalay lama soo qalin xalaal miya ما أوجين زعيمك مركا الله يقع مركا أنت كبح ما رأيت أنت عنا دورات الحيسين يقولون أنت عنا الله يقع فيه كله واتاي صفكي الله قالي قعنا قال مركا دعدو والسلام دون طبعا قعن قاد كيف فير كماها قدامي بيتش كاين مغدا أبشر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وزيرك آديات ها ناين مركي عبد الله تفرع يا قيبك عيارتوي ديس عمر روقي يا قيبك عبد البقين يا كوجري أو مركا كوري من عيارتوي ديس تفرع كورفتين كسوين قبضين هذا عبد الله تفرع رجع دقول سلاح قولين نقاط كذا إسلامك كوبك كبد عقد دونك وهلا بكون تبكي الآدي وكل حسوس وين هيد معناتها إنه مقاعد المقدسي ماذا فرحت وين نوتاي تاجراش فرح بدل الصومالي maanta u soo daawashtagay garoonkana waxay ku tusinaysaa sida bahda isboortiga ee u jeceshay kubadda cagta Soomaaliya ninkii Emmanuel iyadoo jimco ahayn oo waliba maalmo shaqo iyo waxbarasho iska jiraan in maanta halkan la wada joogo waliba zaciimka tiimkeena media saaka anaga 8 subaxnimo ay halkan nimid oo aan markale fiiriyo aan halkan aan ka soo wada bilaawna marka Samuel Ito oo kale taageerayaasha ayuu salaamaya waxa uu leeyahay zaciimka marka waxaan jeclaan lahaa in Samuel أنتوا شكليس بريل وحلا لها ملايين ويستاني صدق مليون أو دولار ولا عكتيس مركز ضد هذا وحلين قدوميه على شيء العجوسي بس كاس حرب إنك كذي أنا قال عقب باهن به أنا قال عقب باهن اللي إحنا كنا لسي سمول إيتو $10 مليون وهيستا
iyo kunta kun lacag meelo tahay diyaaradda lacagta ku soo raaca ka badan iska sheegaan dadka waxaa muhiim ah in horumarka dalkaaga inaad ka shaqayso fiiri waxyaabaha halyaabka la bariil waxaa aniga waa isdagaali karnaa laakiin dalkaaga inaad soo ruxmayso maaha ha inaad dalkaaga soo ruxmayso maaha ma ahan ba inaad soo ruxmayo ma ahan marka waxay ahayd in farxad weyn la qaybsaday aad iyo aad sportiga marka kulay waan qiimeyn doonaa sida maanta halkan wax weyn loo soo sakaafa xitaa waxa jooga sakaafa madaxweynahoodii waa uu jooga Agustina aad iyo aad ninka yiraahdo waa uu jooga mar dhaw la doortay ninka safiican waa uu jooga marka kulay ciyaar qurxoon halkan aan siciimka aan kulay rajayn doonaa in halkan ay ka dhici doonto waa dhamaatay ciyaartii bariilo marka la baasan doonaa hadda dabcan waxa la dhowri doonaa in marka garsoorayaasha marka ay fasaxaan in ciyaarta marka la baasto صفي عن تلفزيون دان تلفزيون دمان زعيمك واحد مودا إن هالكان تبين لافة أن إذا كانوا سوق جديد ولا هذا وكارده ويجوجان عالمي صفي عن روترس جوجو واحد جوجو أي بي جوجو صفي عن مركا تلفزيون دان واحد جوجو هالكان مركا عيار خلحونا كمان تركض عيدونتا أن كل عندها كوهينو هالكان مع عبد العزيز عطوس وأوجدا أو عيارتو أكتف كاي هذا عطوس وفت صفي عن أكتف واي مركا كل زعيمك أنا نتيجة إمودين نتيجة مشاكل نتيجة هذا برجع كل ماني نكي دقيري وسو جوابي برجع كل ماني ها هي نكي دقيري وسو جوابي وحيري لبدينا يا قد هذا وين ما بده قوي يسينو يي لكن فرق يقول الله والله دقيري عمرك هادو اني زعيمك الهي نصيلها فرحدي انو اهاليد waa dabal digi lahaynba marka waxa leena digiraya cimrigaaga ilaahay ku siiyaa ku dheel dabaan ciyaartii marka bilaaban doonta hadii baa awoodda la oglaado waxaan markaa sugnaaba masraxa riyada garoonka weyn istaadiga muqdisho mid ka mid ah garoomada ugu wanaagsan kubadda cagta ee qaaradda afrika ku yaala bariga ee bartamaha qaaradda afrika garoonka qaadka weyn leh waxa uu soo martigeliyay ciyaartooy hore markaa cadaan oo ka yimid wadamada Brazil talyaaniga ana dad xusuusin doona berisamaadkii ogow ma aha ciyaartooyda haahay berisam ma gaarin ma soo gaarin bas waa ku 987 ay yimaadeen ciyaartooy hatta macallimiin talyaani halkan markaa yimid oo macallimiinka kooxaha dalka Soomaaliya Charles Kumi kooxda Manishibi ninkii ka dhigay Manishibi ama Muqdisho ay noqoto koox weyn ninkii ka dhigay Janfi waa uu geeriyooday dabcan Ganeska wuxuu ahaa macallimiinta ugu wanaagsan kubadda cagta dalka Soomaaliya markaa soo martay xidiga fara badan markaa soo saaray صفي عن ولبا يمد لكن هذا تاني هو تاريخ زعيمك وحرمنا إن مناسبتنا أن نوقف إيدي سنو الله ونحرس مرحومين إسبورتيا لأنت سنة كلا صار رافي يقوينيد الله ونحرس وزير الديني هو يديني قديجة محمد ديري إن أدعين وحواي سيدو كله هل يجي إسبورتيا إيشك إن أو جريو دي دكتور علي عثمان ما أنت تاريخي واحد ها وأسوي تاريخ نوع أو صرفيه إن آدم حج برويش بدنا إسبورتيا سعيد مجان بأبي إسبورتيا الصومالية قدومي هو ركوب الدعك مركو حرمنا إن أن وجود عينه ما أنت إني جوب جو وهاين عدل نوع عنو كلا وضدك كسر شقية أي هاين قديجو ما أنت قرون كأنه صار نقضي زعيمك وزير دي كده بيسوي هذا وش حقيقي وزير دي كشقي سواء إن قرون كان دبليس لو سمايا مركو حلينا هاي فرحد وين نوتها عيارة لباسندونا مع العبدي هاد وجدا العبدي باسندونا كبدا بتونو مركا حرية يو علي هاد مع العبدي ضدك بوسيش كيس أو شرحنا مع العبدي وحالتك دقالك بدنوها عبدي dhexdu ciyaarey wuxuu yiri nin iga jaala badan ma jirno yiri waa tahay ciyaarta la baasi diiwaan ka sheegi doona taariikhdiisa Cabdi Joon waa la baasi Cabdi Joon kubaddi Catoosh kubaddi waa markaa taabti Catoosh أنا كل ما عدا مع الساعدة أنجدا عطوش يو علي كابتن كحول كقرنك الصومالية زعيم كلاك عطوش يرتد أكتف كا إن أضيعش لك نافس الصوماليين هل يلا بقول بقري لبلا يا كبد حتى وديش اللي وحواي قرصورو كل عاي إن جيجو كاجي فيري وكاجا وحواي ودرسية زعيم محجر نك حل جيسه جيجي أوكاجا runtii kubaduu sameeyay hadii uusan koomka ku noolaan lahayn ciyaaryahanka markaasi Ronaldinho Gaucho Ronaldinho marka laga reebo nin ku farsama Bruno ma ciyaarin safi aan wasiirka hadda haysta Emmanuel Adebayor waa kana aba wala jeeseno ya Emmanuel وليس ka muuqda safi aan وليس ka muuqda Jiji Okaja Samuel Eto'o waa kana Jiji Okaja Jiji Okaja ayaa haysta Okaja مع العبد عطوش ولا يقطع على لفكاوي وكجوب سالي صفي عن وكاجا لبيسو قسمو جي زعيمك اللي كان تاريخ نوليت كيسا واحد بدن وكبد عاد كسر راعي حقيقي ان اوكاجا خليgiisii iyo jiilkiisii saashagto ku raacsanay hadii san jiri lahayn Ronaldinho maanta wuxuu ahaa lahaa ciyaartooy gambis iyo farsamo ciyaartooyda ugu fiicnay kubadda cagta ayuu ahaan lahaa laakiin nasiib darro Ronaldo xilligoodii ciyaartooy badan soo baxday laakiin labadaas odayaa meesha joogo 15 sano kubadda cagta ka xamaalanay ان كل ساعد وجوده هذا قداميها سبورتك دغمada dharkeenley ان ay raadi degmada warta nabada ان sidoo kale Xasan ayaan u jeedaa oo isagana MC kooxdii hore muxuu ahaa Banaadir Telecom marka dib مع حسن كرنلي صفي عن
marka waxaa moodaa macal maxamuud gurey waxaa moodaa wuxuu ciyaartooyda active ka mid yahay macalinka kooxda raasel macalinkii hore ciyaartoydii hore ee kooxda kubadda cagta ee MCC ee Banaadir Telecom waa kana macal Saacid waa uu crossay macal Yu Ali laakiin waa Sulaymaan waa bari waa uu joogaa garoonka madax fiican uu bixiyay farsamo القلي farsamo سفيعان باص فيعان وديبي عبد الفتاح شاوي تليانا بسوق قبل كبنادر وكان وزير سبورتنج محمد عبد القادر جود جوسي سامول ايتو بليس وكان سامول ايتو الله اللي هنا كان كجرتا ولي سامول ايتو ولي كجرتا كبدا سامول ايتو وسوكروسي زكريا جوشوا ايمانويل ادبيو اسغا زعيمك ما حدا اي مل راعنو يودغي جوجو كاجا على فرسمه الديبي سامول ايتو دك زعيمك ويلو بي جرونكي وينا كو 10 والي المامي صلاح يا لو سو aruuray marka waxa moodaa in farsamooyin cajiib ah halkan isku leysay waay anaga inay imaadaan ay martino noqdaan ayaa wax weyn loo ah marka kulli intaas farxad weyn loo ah macal Cabdi Joon waa ka saxoga wala ilaalina mugta marti way nimanka marka waxa moodaa maanta farxad weyn هاي أنا بيسي لقي قانوة سفيعان أنا وحنوجد سليمان لكن وأردك رأس سليمان نفد واي وحمودا ستيفن قدر يجوجو يرتد أكتف كه سوق المركب وحمودا مهمة اللي قرب بعد دقيقة العيار دونا معها كل وحوا يسدح قلك يصيدوا كرنا واللي وفد زعيم كرجان كلية ما هني وفود ويبناين وحلا السعودية قدومي سكافة حركة كبدا عكتا maadaama anaga zoonka ah hoostagna sakaaf uu yahay wariyaal caalami ah la socda jajo kaajo kubadda waa laga dafay catoosh waa farsameeyay waa dhibi kubadda sidii tuubka marka tala Yu Ali maani gawga waa shoodi kubadda samaya waa la soo celiyay marka waa ka Yu Ali kubadda marka taagay saaxiibkiisa catoosh waa kana inuu kubadda marka dhiibo afka sidii tuubka waa la soo jeestay maya kubadda waa laga qaatay ugu dambeeyay safiican jajo kaajo kubadda haysta hadda wasiirka haysta محمد عبد القادر نكان يكون جنبنا اكتف واي محمد عبد القادر ها رجل الله ترد واسمي وانا غاقي بلاك ودبيتي قريه وزيرك اكتف واي كان ورجين عجيب واي نكان waxa waay waa mid kamid ah ragga kubadda cagta ee ehelka waa sportiga waay marka xaqiiqadii waxaan dhigi karnaa maanta maalin weyn waay kulay raggii waa weynaadiyay shadheeri iyo waxa moodaa in ay garoonka wili ستيفن أنا ولي فاهم وايد صلاحية لو قصار رزعيمك دي شدير مركز يقول دم بس كوبادو ديلاي واحد باسكت بول هاد ان جوجو كاجا وكاس حوغا رجوس الى لنا يا مقتاي لمن اكتف عطوش دي شدير لكن waa laga hortagay واكا لو تبين انه كوبادو marka ku baaso عطوش fiican دي شدير وديش ميا hobseeda la dhahay ha bas la joogo oo taariikh weyn kubadda cagta kula garasharashi caalamiga olba waa aweysi waa madaxii caafimaadka ha waliba awoos oo kamid ah garasharayaashii dhexe ee active ka ahaa ayuu kamid ahaa marka qaaday gudoonka ha maadaama xasan wiish oo yimid wuxuu yiri nin iga weyn idimo yiri xogaa baashi tixgelin way mugtahay hadda meel adiga ka hadlaysa ani kama hadli karo waa ina ku tixgeliyo waay laakiin digri meel uu joogo may kama ani waa fadhiga ugu istaagayna adiga fadhiga ugu istaagayna way maxalimi Saadiya maanta marka garoonka soo galay igaaga sheekaysay waxay tiri adiga Sid Ali Kukay isaga golayaha xulka qaranka Sid Ali waliba waa golayay dambe waa xulka qaranka Soomaaliya barsamaadkii xilligii dambe ee kooxdii Elman iyo qaranka Soomaaliya haddana waxa moodaa in uu kamid yahay مسؤوليتي حركة كبد عكتها هوبسايد على قد جاي لكن ما تكلوا حي زعيمك إن هوبسايد وحده نسكف صحيح هسعتها على قد جاي بدل على سمية لما ارتضوا مركز القطوري قاعد الجديسكا وأنا عيلان قسي شين غزالي قسي يا مركز اللي جاي يا بحي مركز طبعا وإن عيلان مركز وصباحا يا معنوه طبعا مركو رئيس قال كو عياريين سانسلياي صوتو عيارين مصبحين صفي عين نمكو ولا قادا يا مركو عبد جون واكن عبد الله فرح كل هدا ان اسكول لينا يو علي مركو بد مركو لو باس يستوي يو علي واو كروس يستوي بك سبينيسا ولا سو صاري ugu daafaci marka qabiilina uu ciyaarey dhankan waliba active way ciyaartooyda horyaalka Soomaaliya hada dheesho ay kabtankaagii Haajisna waa kana Cabdulla Farax hada isku leeyahay Cabdulla Farax ninkan taariikh nololkiisa ka waran
لاعب معها ninka cabdullaahi dabcan haaji scoor wuxuu markaa barsimaadkii xitaa soo ciyaaray dabcan ciyaartooyda da' yareeda markaa ugu wanaagsan kubaddu markaa qaybka kooxda gaadiidka dabcan inaan filayna markaa waxa uu ciyaaray kadibna kooxda haajis kadib macallin noqday waa runtii daaficada xisaabtama way ninkan si fiican kubadda ka soo bilaabaa si fiican marka si guud waxaa moodaa Samuel Ito ayaa hadda haysta waa lagu dhigay kubaddana ma ahayn ma agradaf hayaynu ka soo galo waa ku jirtaa ugu dambayntii gool African Legends African Legends ayaa dhaliyay wasiirka dhaliyay Samuel Ito ayaana caawinta sameeyay wasiirka wasaaradda uu bilaabay goolka oo waliba Samuel Ito u baaso Samuel Ito u baaso assistant ayuu leeyahay Samuel Ito marka legendski ayaa zaciimka waa ka cunaanay cashada caawiya Maxamed Abdul Qaadir ayaa markaa bilaabay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya si fiican agbiyaad u dhac maya waxa kaaga darnayd ba true basket dhiibay ayaa kaaga darnayd hadda bedela dhici doona lambar 12 iyo lambar 15 soo awil iyo sidoo kale waxa iimaanaya Abdullahi Farax Abdullahi Farax iimaan doona waqtiga la ciyaaray marka uu yiri Abdullahi Farax galay Abdullahi Farax galay mid kamid legendska hore ayaa marka waxa maya waa daqiiqadii la dheelay waay marka zaciimka goolkii koowaad ciyaarta hal eber waay waliba ninka dabiyar firi waliba umada sida waay marka Arsenal u dheelaya mudaaba cajarada la geesana xogaa waa cusub kali miisaanka cuslaaday waliba hadda waa ninkii qabtanka qaran hadda wuxuu u sharaxan yahay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Togo ayuu u sharaxan yahay good geesay waa kana geesayna qadaali isaga dhaqaaqaya kubadda waa markaa ceshay maya waa dhacay waa laga qaatay عطوشة كقاتل سفي علي مع اليو علي وكان مع العبدي عايسته وارد قوي زعيمكم وارد قوي سفي عن وزير ها وزيرك جي وكان هذا بايو وقوي ونقي وتاقي وباسي وقوي بيا ونقي ويرى نحلسي ويراقو بناك عجيب فرسمنا الاسلاميه انا جيجي من وديلو يعني مايا جيجي انا من وديلو يعني كوش نكان waxaa ku dhahay hadii uusan ahaan lahayn Ronaldinho gawjo جيجي وكاجا waxa waaye farsamada uu soo bandhigay ayaa cajiib ahayd waligiisna wuxuu dhali jiray gool qurxoon oo dhali jiray marka waxa moodaa maanta farxad weyn xaqiiqdii inay tahay gadaal kubadda marka ta Allah safiyan dhexda marka laga dhaqaaqaya waa kuwan جي وادي بيكو بدي جي سفي انا كبد مركا لو باس ولا ورجي اكشكي واكا اكشكي ارك جي دعالوسي غولايا سيد علي وافريستي لا كذا ارفر سمي هيتني ارتني فرسمي روتي مدن نصيب عمو مدن روتي نصيب واكو اوغو دبيتي ما نغن ولا سو دفاعي مصطفى فرنسا وادي بي فرنسا هي ولا ورجي معلق حلقه يو علي يوسف علي نور واحد يكو بدي سغايسا واباسي عبد المحمد محمد عبد الجون حيدقي هوري كوخا هيلمن دكدا وادي بي كوبدي مركده معلكي قوله دكدا دحدو مركا دغي عبد العزيز عطوش ولا قاطي وزيرك واكن الوزير وادي بي صاحب الهدف اتورا فين هو وزير محمد عبد القادر مركل واكبتك ولا دي عطوش كوبدي مركا دفي ولا توري كوبدي مركا ورجي نمبر 5 كمرتك يقول لك وتاكسونيا نمبر 5 واحد كوبدي لسي وادي بي فرسمو هو وتاكسونيا كلي ما صعد واي وأدور فرسمو كلا واي فرسمو هاي عبد العزيز عطوش صفي أنا عطوش وحمد ده مركز يقول مع العبدي لكن عطوش يحوجا يجوا اكتفى ده هالجولة أنا أقول لي هاي لكن ما كان دافعي وجوه أي وحي دافعية مركز في آدي وفي جيل سمليتو قاتل عواقن كنترول في عنو سمية جيجي وكاجا ماذا حال يسوي لنا يا باشا جي يونيك سامليتو فريس اليابي اللي قالتي لا سدع باسرو واتاي قد كده حيت الله مركن سومالي ليجندز صعبه ودعايه مرتده سومالي ليجندز مركا دقاقيس هذا iyaga ku batay Soomaali Legends gadaal loo soo furay golayaha Said Ali Kokayo dib ugu celiyay zaciimka ciyaarta in la dheelo ina nimca hilaac ayaa hadda isku leenaya fanaankii weynaa markii 20 xiliyay كوبي لباتنكي أيام مركز كلنا وعيران مركز فنان نمعان هلا خد كده عيه وبث في عنا فرسمية مركن وعلى قد في واكن معلم يو علي واتي كوبدي خد كده عيه أفتح شاوي لبي لباتنو حرية وحصل كلنا صفي عن عطوش وكاسر محمود قري
maxamed gure wili salaxyadu dheelaa waa ciyaartu active waa diisha dheere luuqa la soo dhigay haye ayaa garab dhaaf offside hawseeda laga dhigay waa dhigay calan wadaha waa uu taagay lejan weyn isku leenoy cabdi basket cabdi basket soo socda waxa soo socday Nimca Hilaac cabdi basket teamkii dhaxawaa saan jeclahay cabdi basket waxa uu kamid ah taariikhda dib markaa uu qoransano ciyaartoydii markaa Allah u naxariistay maxamed xuseen shiqaalo uu soo saaray wuxuu kamid ah juniorskii Manshibiyo ayuu ahaa intaana dagaaladii markaa dhicin xidigay ugu wanaagsan daayirtii la soo saaray Manshibiyo ku jiray kadib burburkii dhacay wuxuu markaa degmada warta nabadda markaa uu ciyaaray koob markaa uu la qaaday degmo ahaan kadib markii kalena wuxuu markaa uu ciyaaray kooxdii Erman waxa ugu horeysay dabcan kooxda markaa Haajis oo markaa Erman intaan markaa la asaasin iyada markaa uu ciyaaray horaadkiisii 20aad xidigay qaado ku jira isaga Yarisow dabcan xidigay markaasi uu soo saaray Allah u naxariistay macallin shiqaalo ayuu markaa ku jira waa taa kubad fiican markaa la baasay geesi ayaa kubadda markaa haysa Emmanuel Adebayo JJ farsamo maya way ka qaldoontay kubaddaasi JJ oo kaaja JJ way ka qaldoontay haddii aanu jir lahayn ciyaaraanka markaasi caalamiga ee markaasi u ciyaara reer Brazil Ronaldinho Gaúcho ninkan loo calaamad saari lahaa farsamo abeed kan kale ee legendiska ah ninka ugu aktifsan wasiirka sportiga waa aad iyo aad waa dhaqaaqaya waa nin dhaqaaq fiican hay wasiirka waxa waaye nin waa nin dhaqaaq fiican sportis waa nin aad iyo aad waxa waaye geesi kubadda waa celi سفيان وكوانا عيارتودا إبراهيم بنغورا جيجي وكاجا إيمانويل وادي بكوبتي سفيان سامول إيتو هيا والله دقيت لوغا سديك توكا وادي قديم هيا قدر كات كاسة لما جول يا بر راشكي كريستيانو رونالدو كتب الدقي لما جول يا بر كبد هاي ده يا لسيرو تبلينو هاي ده يا لسير جيسي هاي ده يا ليري واو كفاية سيسنا واو كشوف سفيان يلو كان رصينا جالي يقولي يقادر يا سفيان واقعت جاليسي وانا ولما وزيركي إنك يوسف يسمون إيتو معلنك هالكن وحكا أوجو أبا جعلك قري عصا كرتون nin weyn guraya xasan kurtun ayaa markaa macallin u ah marka loo eego teamkan markaasi Somali Legends halkaana muraada jooga halkaana waxa abaaji elka muuqdo nin weyn marka zaciimka maanta cid maqan ma jirto cid maqan odayaasha Soomaali ninkan ugu farsan odayaasha digri bis ka maqan abaaji elka ugu farsan fiican bis maanta ugu maqan marka kulli labi eber way zaciimka natiijada waa ka cuna caaw ashada kulli waa diyaar hadii haysh lacala haysh maxaa wariyo baysan ku dhaay aadiyad waata aniga barbar dhacaan dhahay waati doonaa gadaala kubadda markaa la geeyay hadda waxaa soo geli doonaa Nimca Hilaac iyo waxaa soo geli doonaa Cabdi Basket kulli bedelay sameyn doonaan odayaasha marka labi eber lagu leeyahay legendska halka zaciimka maadaama marti ay yihiin ayaga badiyaan saasi ku qorxoontaa waataay Mustafa waa Aftah waa laga qaatay waa kana ciyaareenka waa gooyay sidoo ku jira waa gooyay Adebayo waa u qabtay kii kale isaga haya waa taagay yaa ku shoodi kara waa kan الكابيتانو سامويل اتو ولا قصر نيكا إيروليري إيمانويل وان تاج سدح هذا سديك تومكا دبل ما كنت لا ولا قدر غالي ولا قوي ولا بلدي سديك تومكا ولا سي ما كنت سدح جول يبر جي خلاص جي قروك الدمي جي مركو لي قروك الدمي بقى جي اوكاجا سدح جول يبر جي اوكاجا يا كدغي عدبيار اي جي اوكاجا اي سامول ايتو اي سدح جول يبر كله marka la fiiriya teamka markaa Somali Legends iga iska dhigay marka kulay on goal way saddex gool eber way waxa moodaa marka macal Cabdi Basket hadda soo galay Nimca Hilaac ayaa sidoo Xasan Karana la bedelay good geesi isagana waa la bedelay macallin Waxiish ayaa bedel ku soo galay isagana Nimca Hilaac ayaa bedel ku soo gali doona Nimcaan ayaa bedel ku soo gali doona Nimca Hilaac bedel ayuu ku soo gali doonaa ongol way daafacida waxa iska dhaliyay Ocean Starska marka xulka qaranka ee Legendska ayaa saddex gool iyo bar kale kulli laakiin zaciimka ninkii wasiirka ahaa
يسمونه ويس فهمين آد وخابك كبده وعيارين ها خابك وقباسة لكن أقول شكل هذا كي بلاير لكن واحد أدبايو أدبايو روتي أدبايو إستجا كبده سكو حرام مركا أدو ديبه صافي عن ولي بزعيم كعيارته اسكو بحس واي ما دام التيم كان يعاوى حفلدي كان مجرد سيد هذا اللي سوق جارسيه وحنا جردونت إن عاوى مدحدي سريع دلك قابل دونان بري وحي فري دونان جرون كونيس وحي كفري دونان برنامج جراس رود أو 7 دقيقة توصلوا عياريها ها طبعا جي اوكاجا ayaa goolka markaa loo qoray goolka waxa markaasi loo qoray ciidan jي اوكاجا isaga dhaliyay balilow ciidanka markaa orday difaaca lugtiisa kuma dhicin اوكاجا kubada markaa jaxi markii adabay markaa u soo dhigay la yaabay dhigay runtii waa kan markale Emmanuel waa dhiibay jي farsamo waa dhigay markiisii gadaala loo celiyay istabarka ayaa haya kooxda African Legends waa dhiibay markale haye igarka kubada ka dheeraatay waa urdi waa gaari way culaysa ka batay qadka dhexayta la markale زعيمك marka si guud waxa moodaa ciyaarta kulay waqtiga rasmiga ee la dheeli doono waan arki doonaa laakiin ciyaartooydu waxay moodaa inay si fiican maanta u dheelayaan waliba legendiska ciyaartooyda ka muuqata Jay Okaja Samuel Ito Emmanuel Adebayor dhamaantoodba si fiican ay u dheelayaan waxa la socota warbaahinta caalamiga wakaaladii wararka ee caalamiga ah waxay tabinayaan dhacdadan caalamiga aad iyo aad balilow waxa markaa sheekada atooraha filimka markaa ahaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdul Qaadir oo markaa bilaabay dharbaaxada isaga bilaabay waxa markaa labeeyay ciyaaryahanka markaasi caalamiga good geysay oo markaa isagu kamid ahaa macallimiintii marka loo eego markaasi xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal iyagu markaasi tartanka maamul goboleedyada markaa ku guuleystay ayaa labeeyay si lamid ah ciyaaryahanka caalamiga JJ ayaa saddexiyay gool qurux badan markaa ku saddexiyay waxaana sheekada ay tahay 3 gool eber madaxa lagu bixiyay kubaddaasi waa kan ciyaaryahan Cabdi Jactoosh waa ag wareeji waa laga diiday waa laga soo qaatay mar kale baasa la ciyaaray Emmanuel farsamo lugu dheer waa dhaqaaqayo talaabo dheer waa dhaqaaqay waa galay Cabdullah Farax waa laga tagay 18 waa nani waa wada fara 4-0 saaxiibkii Cabdullah Farax waxa uu celin waayay Emmanuel Adebayo xidig talaabo dheer runtii hal talaabo markuu qaado waa adoo 3 markaa soo qaaday ogow balilo ninka orskiisa ka war Emmanuel Adebayor waxa moodaa صفيعا قدر سو غلي دونا محمد قدر سو غلي دونا شكد واسدع يبر افر يبر ka gaarsiin karo افر يبر واي مايا محمد قدر maadaama xogaa shacbiyad uu leeyahay waxa laga yaabaa in ciyaartan uu qayb ka noqdo inuu goolka calanka ma keeni karo marka may goolka calanka uu keeni kara xogaa active waay marka kulli waan arki doonaa hadda Adebayor laba kamid goolasha saa dhaliyay macallin Umar Dhooqeey xaaladda ku xun macallin Umar Dhooqeey oo Soomaali legend isagu markaasi hadda hogaaminaya aabaa jecelkan oo ku xigo isaga hadda xaaladda markaa ku xun xaalku ma fiicna macallin Dhooqeey sababtoo ah afar ayaa lagu leeyahay qaybta koobaad ee ciyaarta dhanka kalena bedel la soo wadaa halkan bedel ka san doonaan macallin Cali la bedelay لكن يعلى أساوي فينا تيمك يعلى تيمك أساوي فينا إنه حتى وحوش شيء يا لقيا معلنك هل كان تيم لنا يسوي مريض وانا ولا صودا بحي قيبتان كوبات طبعا ومركان نصن دونا ديب الله لابن دونا بيننا الكريم بليلو لبا قيب على عيار دونا لبا قيب ayaa la ciyaari doona qaybta hore sida hadaan arkayno afar gool lagu leeyahay Somali Legends waxaana mucjisada markaa sameeyay xidiga caalamiga Emmanuel Adebayo JJ Okaja iyo sidoo kale Samuel Eto'o Freeze dhacdo la yaab leh taariikh kubadda cagta dalkeena Soomaaliya ugu baan horay markaa u soo marin ayaa galabta runtii garoonkan weyn isla Muqdisho markaa ka jirta daawadayaal waxaana markaasi ku faraxsanahay inaad nala sii joogtaan waxaana markaasi dib ugu laaban doonaa garoonka haddii ay bahawoodis loo galado JJ Okaja ayaa halkan taageerayaasha u kacay Adebayo dhankan yimid dhanka kalena JJ Okaja jooga ogow dhanka kalena Okaja jooga taageerayaasha markaa gacmaha u sacbinayaan runtii balilow tani waxay tahay runtii taariikh weyn oo kubadda cagta dalka Soomaaliya ku soo kordhay in nasiib uu yeeshay xiriirka kubadda cagta hadda markaa talada hay gure saaxiibkeen wuxuu yiri u tawir taageerayaasha JJ Okaja taladan waxaa soo siiyay guriga Xasan Kurtun aabaa jecelka nin weyn waa ka JJ dhanka kale markaa yimid
هذا مركان لوجو كعي تاجرياش وكعين سمول يتو كليا دمان إنه تاجرياش ويمادو ولا هلا مركان لما عيارتوده واحد مدة إني ما تكون فرعسيين إني سومالي أي مالان ويولبا أي سيان كل هذا وحال كل هذا عيارته دب لو أم بقادي عيارته قيبتي لبعض يا دب لو أم بقادي داود يال وكان مع عبد جون عبد الحفيظ زعيمك يا يقول له معنا أن عيارتان إلى تبين دونا وحنا هذا الجرون كسوقاري مدحوينا حرك كوبا عقته سكافة أن يومي سيدو كله حبين كتسن قدي فلنتا صاحبك بشير دار أنجدا وهذا أن جرون كسوقاري حبين أن قدي فلنتا حرك كوبا عقته سوماليا كترسن مركا حقيقي وعيار أجد وين واي
جول دليان معليو علي هالجول دليي معليو علي أي هالجول سعليي أوشياني سارس أي هالجول سعليسي أوشياني سارس معلن يوسف علي نوريو علي أي هالجول سعليي معلن يوسف علي نوريو علي أي هالجول سعليي وأفر جول يجول أفر جول يجول ويان أفر جول يجول ويان عيارتا كل بدل لسميي وزيركا يعني معنى هلا ويسرع عنيان isaga ayaad moodaa inuu ugu fiican yahay waa kuwana JJ dhex ka tuur fiican la siiyay Emmanuel Adebayor laakiin waa ay ka sara martay Emmanuel Adebayor kubadaas kor ayay ka martay Emmanuel Adebayor ciyaartu waa 4 gool iyo gool weeyaan ciyaarta waxaan iskala tiimka Samuel Eto'o JJ Okaja Suleiman Wabri waa kuwana mar kale محمد قدر يا وتا محمد قدر إبراهيم داهر زكريا عيارته وأفر جول يقول إلى يهدا وكوانا معلم وحيش جوجو كاجا افتح شاوي وكان معليو علي يوسف علي نوريو علي معلك حلقة قرنك صوماليا لكن دي شديرة مسندعين كوبدا سواء كبعضي وانا كورنا ويان كورنا كيك ويان عيارتا كورنا ويان لمبركا halkan bedel ayaa dhici doona ay sameyn doonaan Ocean Stars shargaray muuqaalka shargaray si meel dheer u gaaro bedel ayaa halkan dhici doona tiimka legendska ayana bedel sameyn doona kulli laba bedel oo degdeg ayuu soo wadaa Macal Muraad wala baasi waa kuwana Maxamed Gurey Adi Basket وكوانا مركله لمعان هلاع عبد العزيز عطوش لكن ولا قدفي إيمانويل أديبيور سامويل إيتو لكن سامويل إيتو ما يسلعين وكان افتح شاوي كوبداسي جيس هي كمرتي بدل يعني عندنا تيم كالليجندسكا عبد الكوس ayaa soo gali doona عبد الكوس ayaa bedel sameyn doona ciyaartu waa 4 gool iyo gool مع المراد tiimkiisa ayaa wili 4 gool iyo gool iskale waa kuwaana Maxamed Gurey maanta kulankan waa kulan maamuus ah oo lagu soo dhaweynayo halyeeyada kubadda cagta ee Soomaaliya waa kuwana mar kale Maxamed Qadar ayaa dhaliyay gool Maxamed Qadar ayaa hal gool u soo celiyay waa 4 gool iyo 2 4 gool iyo 2
sheekada aad ay u kulushahay daawadayaal waxaana markaas hadda ay noqotay 4 gool iyo 2 waxaa markaas soo bixi doona macallin Cabdi Joon waxaana gali doona macallin Cabdi Kuus laba kamid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan kubadda cagta dalka markaas soo martay berigii dhexe ay qayb ka yihiin halkan lambar 6 iyo markaas soo socda وكان مركزي باس في عنا مركز لسيه وزيرك وصادق كوبدي وزيرك وعلي ترو باس في عنا مركز لسيه ووير كوحدة لديس قارة أفريقيا هاي أفكس دي توبك كوبدي مركز كوبدان وكان إيمانويل وديبي شعب كيسي جي واتي كوبدي سير توبك مركز كشي وزير محمد عبد القادر وديبي قربنا في وتاجين قربنا فالله بحي وقربنا فما أوفسايد وعنا مركز تورن دونا عياتويدا مركزي سومالي ليجندز واديبتي مركان ورا مركان سو قادي ورا مركان سو قادي كونتر اتاك افكس توبك كوبدا مركان سو توسي وكان سيو تبتلا مع مقارن جوليا مركان قبسدي جوليا كروجا كوبدا مركا هيستا اوغو شيكدي waa laba gool yeebir معلم يو علي وري محمد قدر يا سو علي labadii gool afartii marka lagu laba kamida معلم عبد الباسكت markuu soo galay runtii isbedel marka la sameeyay عبد عم شيخ markuu soo galay runtii isbedel ay sameeyeen kooxda marka Soomaali Legends وكان عجلان مصطفى وقاعد كوبدي عركي مركات الله قيسا مركان دقي وور كودا سومال ليجندز فدا مركان سو دقي هاي مع سمين كرا ولا كروسي يا تاجن كرويا لا كروجا بنانك كروجا بنانك سوبر مركا كروسي هاي لكن كروجا كوبدا اسك ديداي او مركا بنانك دقي waxuu kamid yahay macallimiinta markaas korayaasha isagoo soo saara markan leego qaarada Yurub caalamka gudaha dalkeena Soomaaliya macallimo korojo geeskalaada marka loo taagan yahay Soomaali Legends waxaa lagu leeyahay 4 gool laba soo celiyeen Soomaali Legends geeskalaada marka la soo qaadi doona markan geeskalaada ayaa marka ay u taageen Soomaali Legends waa la soo saaray kubaddi haye macallin Abdi Basket kubaddi waa uu soo jeedi waa uu qalloociyay waa dhigay sidii tobaka illa la dhiman waa gooyay waa baasi waa laga bixiyay ugu dambeeyay waa kana kabtan Samuel Tuflis isaga kubadaysta لاعب كرر كاميرون قدوميها كاميرون وادق كوبدي الوزير محمد عبد القادر وزير فرسمه بدن وادي بي كوبدي وقاضي هاي دقائق في على المركن وايمانويل دبايو وتاغي وي قلدتي واستفاع العيوتي الصومالي لجدس خاطر الحين بركات الله عبدي واكنا عبد باسكت لمركي تبرادي مركا خلق قرنك اي كوخدي هاجس وادق كوبدي وقلدتي كوبدي waa lagu soo weerartay lixda marka laga qabsaday waa kuwan haye Samuel وادي كوبدي مركله جي وتاغي لوقو مركا غيي إيجارا لوقو كجلو مركا دقاقيا هاي أدبايا باسو قاتي ملاسين دونا ميا والا غوي والا ورتي سيدي تبكا والا سودغي سيدالي كوكاي لا بناك ولو بيع كوبدي واتنا افك زيتو كيلو تلا والا تاغي مركله جي هاي كوبدا لو تاغي جي بنانكا عركا اي مركا مرتي ugu dambeeyay hali seeruti ahayd hali see xaqiiqdii ahayd in marka loo shaneeyo kooxda Soomaali Legends laakiin ma dhicin ugu dambeeyay African Legends ayaa ciyaarta ku hogaaminay daawad ilaa 4 gool iyo 2 qaybtii koobaad iyo 4 markaa dhaliyeen kooxaha markaas African Legends ee uu markaa horkacayo ciyaaryahan Samuel Tuflis gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta qaaradda waa markaas dalka Cameroon ninka reer Togo Emmanuel Adebayo oo mucjiso markaa dhigay qaybtii koobaad ee ciyaarta iyo sidoo kale Jeje Okajo oo farsamooyin halkan markaa nagu tusay ayaa lagu maray 4 waxba qaybtii koobaad ee ciyaarta qaybta labaad markii la soo laabtay ayaa Soomaali Legends guntiga dhiisha isaga dhigeen markii ay soo galeen xidigaha markaasi kala ciyaaryahan Abdi Basket sidoo kale ciyaaryahan markaasi Maxamed Qadir Ibrahim Daayir ayaa markaa mucjiso iyagu sameeyay isla markaana Yu Ali ayaa dhaliyay goolkii koobaadkii labaad Maxamed Qadir markaa kubadda markaa la tagay waa kana ciyaaryahan markaa Emmanuel goolaya qabsaday goolaya istacli ku kay laacibkii hore ee kooxda markaasi Elman kubadda markaa waa taagay waa la wareejiyay Qadar waa markaa uu dheereeyay haye markale kubaddaasi waa kana waa weer Maxamed Qadar waa kana waa talaabo dheereynaya waa gooyay waa dhiibay bas fiican qurux badan haye waa kana saaxiibkiisi Atoosh waa taagay yaa ku jira Zeytubaka yaa ku jira waa la ku fidi waa saaxiibkiisi waa kana Qadar banaanka ugu dambeyntii sorry banaanka baxda runtii halisi ahayd kii saddexaad marka la dhaliyo waxay u noqon lahayd rajo weyn marka loo eego kooxda Soomaali Legends laakiin ma dhicin ogow kubadda farsama lagu keenay farsama dhac lagu keenay ugu dambeyntii uu taatay Maxamed Qadar shoodo yidho bris laakiin banaanka baxday misbiyaajo ugu dambeyntii sheek waa 4 gool iyo 2 gool Soomaali Legends ayaa lagu leeyahay 4 gool Soomaali Legends ayaa 4 lagu leeyahay tiimka markaasi Jeje Okaji Samuel Tuflis Emmanuel Adebayo ayaa markaa iyagu 4 leh waa la qaaday kubaddi goolaya Karoja markale kubadda lagu celiyo bana waa ku jirtaa ugu dambeyntii gool 3 gool 4 gool Abdi Ahmed
عبد أحمد شيخ عبد باسكت لاعب كيورك وعاك وبدع عكتي ألمان هاجس بنادر حلقة غرق تلقى صوماليا يا كذا الشيء كذا 6 جول يا 4 جول ها هي عيار وقليد بالجري عيار وقليد بالجري جو لاعب كي وينا لمبرك يتمنى حلقة غرق تلقى صوماليا 6 أيو شيء كذا كذا مع مقدر كوبد ولا قد دفاعي عبد باسكت وتكتي هوب بريسكو يري هوب بريسكو يري وضبيتي 6 جول 4 جول هل جول أكون مقن كوحدة صومالي لجندس هل جول أيكون مقن صومالي لجندس هل جول أي قبل بالي كرينا عشاء وسي ساعيك يبلل إنا عشاء قاتل هل جول مركا يكعت عيارتنا كنا ما تافر أفر ها هي كوبي 6 دقيقة مركا مريسة داود ومركا سعفيتي مركا عيارته داونا كمية ساعيك عيد عبد الرحمن آدم أو كمية سعفيتي مركاسي وهو يسوي كسو قبته مركا اللي يقهر مركا كبت عكت تلقينا صوماليا واكر مركا جاي بناكا سيداني كوكاي مركا إيمانو أدبايو مركا بناكا برتك جسي مركا كمرتي هالي سيرتي أهيد هالي سي حقيقتي أهيد وقد بيتي برناكا مرتي وقو والله شرين لها كوحدة صومالي ذا صومالي ليجندس والله شرين لها وقو ليكا وارسك الريح وارسك تيري بس على ليجي ninka ugu dambeyntii barnaamijku markaa ku daray haalisi runtii ahayd haalisi xaqiiqdii sheekad ay laakiin ma noqon in loo shaneeyo kooxda Soomaaliya Legends Africa Legends afar ay wili leeyihiin saddex ayaa markaa laga soo celiyay waa kan markale Cabdicasiis yaa farsamo Atoosh waa taagay wanda waa taaj bas haye markale waa kuwan waa kana ma barajeyntunan maya waa la soo markaa halgaaday waa la soo halgaaday markaa weerar markaa lagu yahay dhaqaaq markaa waa kana Samuel to fleece waa dhaqaaqaya bedel soo wada awil bagin soo wada عاوي البقني الله صوّدا متك مدح الدقيقة وقف على دافع على تركنا الصومالي الصومالي وقت جيده واكل وزير محمد عبد القادر وزير واحد ورجي وتاجي والله يستاجي مش بيجي وزير محمد عبد القادر لولك كسوكع يا وزير وقت شيء حقيقي أنا قاعد فيلم كمركا أتوركا هكوجي هوري بدل الله صوّدا مركن عاوي البقني أدارسن عاوي لا صوّ على بليلو عاوي الحكم داي دافع عيدي كوحدي مركا عنك هاي أربع واكل مركن ما يوالي عليه الصواب الكسف عنكم بدل مركاوي عليه وساجي معلن روقيا مركا أدو غيرنا قتل هي مركات الله وكون عيوتي مركز افريكان ليجندز باس في عنا العياري جي يا قدر مركا اسو عليي جي اوكاجا كومد مركا قدال اسو تري دخدا لو ورجي مركله هاي شك وحي مريسا افر جول زعقول ادبيو كوبدو كدال مصطفى فرسا كديدي شكدا مركله واكنا ولا مركا ولا راعيه ولا لو دغياي لب يا نسي مالو مر لو وايي فور لو كلا قدامبيتي انا ادبيور وحوايه مصطفى معلوم مصطفى منح يبا كل وزير كهذا وتاع محمد عبد القادر فيلم كوحة مركور الشركة كسرنا وزير محمد عبد القادر وحا مركله شركة كراعي محمد عبد القادر لما قول وزيرك شن قول افريكان ليجندز صدح قول صومالي ما نفذ ما جسق وامانته واقل ما اسا كون كفري اسانا نسو خري عيارتنا قبقبي كله هاي زعيمك bahda isboortiga guud waxay moodaa waliba goolka u dhaliyay goolka waxa way ciyaartoyda professionalka ay dhaliyaan waa fiiri acta super goal oo ka dhaliyay qurux badan oo ka dhaliyay kulli waxa waa hadda 5 iyo 3 waay barido ninka xitaa qaranka ku dari karaa maya waa qaranka markaas dhil kala waay maya qaranka odayaasha lagu dari doonaa odayaasha bixi doonaa legends safiican kulli hadda 6 daqiiqo dhiman ciyaarta ciyaartana gabagabay ku dhowdahay waxa moodaa marka nimankan soo laabasho inay sameyn doonaan umar ee maahiyo kulli nimcaanaha kulli maxamed qadir iyo markii la keen nimcaana xoogaa dhaqaaqii sameeyeen iyo cabdi baaskid oo gool dhaliyeen laakiin hadda waxa moodaa baash inay xeerin fardhal way kala dhaceen hadda cabdi kuusa kubad markaa baasay waa kana farsamo yaqaan Atoosh kubad waa dhex jiri waa dhiibi Atoosh saaxiibkiisu markaasi kubad la qaad gadaal loo furay golaya Krooj Cabdi Saaqrooj macalinka golayaasha isaga kubadda markaa haysta si fiican u karoosay haye dadku soo dhigay markuu tibad baaso isla markaa wareej dhexdu markaa dhigay yaa kubadda markaa ciibsanaya xidigii qaaradda Afrika may kubadda waa ka markaa waa la halgaaday waa la baasay baas quluc badan dhexda loo galay Cabdi Baasid kubadda markaa celiyo difaacay waa dhiibay saaxiibkiisii wadada loo galay markale soo barkay kooxda Africa Legends ayaa kubadda markaa qaaday madaxa dhac lagu siiyay cirkiga markaa taala haye ninka waa farsamay zaciimka maadaama kulan rasmiya official oo sanahayn hadda baxda xataa soo gali kartaa hadda awal bigani iyo taliyaha iyo waa kuwana goolka afar shan Atoosh Cabdicasiis Atoosh afar shan afar iyo shan waay Cabdicasiis ma dabaaldegin kooxdiisa miyaa ma garan karo maya maadaama dadka la jir kuusa gacan taagay kuusa gacan taagay laba ciyaartoy la soo wadaa bedel 5 gool iyo 4 gool
shan iyo afar ay sheeko markaa maraysa waa u galay wuu ku soo noqonayaa shaawey waa u galay waa u ciyaar waa ku soo waa normal waa iska caadi waa ciyaar iska baashaal waay runtii cabdibaas ka shaqeeyay kubadda si fiican cabdibaas gabagabadaan soo gaarnay kulli ciyaarta gabagabo waay ziciimka ciyaarta waa u jeedaa bahweedii isboortiga dawladii waa la wada joogaa iimeeshka maanta Soomaaliya bixisa ka waran runtii waxay markaa tahay sharaf weyn u soo yeetay marka lagu kubadda cagta dalka Soomaaliya oo ay markaas ka shaqeeyeen xiriirka kubadda cagta dalka Soomaaliya oo gudoomiye yahay Cali Shiina si lamid ah markaas xiriirka kubadda cagta dalka Djibouti oo abaal weyn markaa nagu leh si lamid ah wasaaradda soo socda laakiin xiriirka kubadda cagta ee dalka Djibouti gudoomiyadii oo abaal weyn markaa lagu kubadda cagta dalka Soomaaliya isagoo ka bixiyay qalqalooxi isla markaa Afrika ka gaday Soomaaliya horay Afrika FIFA ay uga tirsanayd laakiin khilaafkii wixii buuqi ayuu runtii yareeyay ninka aad u shaqeeyay Suleymaan Waberi oo maanta markaa jooga sakaafana markaa xubin markaa saraka halka golayaa markaa la bedelay sidoo kale wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gacan weyn u ka geysatay in xidigaan markaa lagu casuumo magaalada caasimadda Muqdisho saddex kamid ah laacibiinta ugu wanaagsan kubadda cagta qaaradda Afrika boqolka ciyaartoy saameynta ku leh guud ahaan markaa caalamka ayay markaa qayb ka yihiin runtii sharaf weyn ay markaa u tahay kubadda cagta dalka Soomaaliya hadda balilow indhahay si kala furtay waxaana laga rajayn doonaa horumar intaa ka sii weyn haddii ay baha awood isla galdo afar gool iyo shan gool ay ka maraysaa 37 daqiiqo tagi doontaa daawada waxaana markaa dhinaan doontaa 3 daqiiqo ciyaarta ما كان دونا الصومالي وافريكان ليجندز ملقات كان دونا الصومالي ليجندز كل كان حساب بدن شاوي بنانكم مركا تاغنيه mid kamid xidiga ugu fiicnaa ayuu markaa ahaa waa baala baasi kubadda markan waa kan qatay lixii markaa taala waa weerar African Legends baasa markaa la wareejiyay haye luuqa lagay Zakariya Shakuwa Zakariya kubadda markaa waa qaaday cirkay markaa taala madaxu ku taabtay xidiga markaa isoobarka Somali Legends maxaa la sameyn doonaa ugu dambeyntii waa kan markaa dhaqaaq luuqa laga keenay banaanka taala waa gacantuuray markaa sameyn doonaan marka looga xidigaa Somali Legends waa boobsiyeen maadaama gool markaa uu ku maqan yahay ciyaartana waqtiga markaa ay ka harsan tahay hal gool ku maqan ogow hal gool ay ga badbaadin kara balin inuu caawa shaqaato waa la dhigay kubadii in kasoo goolasha markaa ay ka fogaatay intii uu sheegay waa tahay kubadda markaa waa la wareejiyay goolasha sheegtay waa ka bateen ogow goolasha ma bod balis waska dil ogow laakiin koox hebel badinay gool maya koox hebel badinay ma isweydiin waa duuban tahay waxaan ku yiri goolal sheeg goolasha sheegtay wax xustaa saddex iyo hal way dhaaftay sheekada markaa hal eber ku adkaanaysa haddii noqoto 5 iyo 4 hal eber noqon sheekada sidaan ku badbaado ogow waa tahay kubadda dhexda markaa la dhigay eetu feliis kubadda fiican markaa u dhigay ee maalin wala dhabayo JJ oo kaaja dhaxayo markaa siiyay igaro markaa madaxu ku qatay dhiga inuu kubadda markaa Zakariya Shakuwa inuu diib dhigo xidiga tagada waa dhigay Emmanuel wasiirku kala wareegi doonaa saddex ley Emmanuel dhabayo بريلو ما نفذ ماجي وزير كان ليه لا لكن أتبايرو قرط نقول لك أتبايرو فرسمة كايس عليك محمد عبد القادر رسول لكن نكرر نقول لك إيفا نوكرن صفيا إيمانويل أتبايرو قرط نقول لك إيمانويل أتبايرو ولي بقول كود اللي جيجي وكاجا بنانك وصل لي زكريا شكوى لي زكريا شكوى صفيا ما بريسكويل زكريا شكوى أي روتي كشقي أو دكت قيمة مركز ميديك الدافع وقعيارة نشقة بدل وأنا نكن أقول حدقها جانب تركي يمد نكو وقف صومالي بدل كاو زكريا ها هاي صومالي عادي وكذا آديات وصومالي وأنا مسلم وصومالي آديات وصومالي وبي زكريا وعلى باس كوبدي لحية فريشة كمركان نقطي لحية فريشة كمركان نقطي أفريقيا لا تدي سيانا مركايا هل دقيقة غالبا يوحوا حسن وش راعين دونه ميت كم إذا كسرش عالمي وكوبد عقد كنا صومالي مع قدر مية هل إنه سعودي يكون عليه أفرو كنيجو لكن ما نقول عشان أبو كنيجا إرادة ما نقول كوبد كرة الله قاضي حسن هذا الحجير وش قصرياشي كوبد عقد عالمي قارة أفريقيا سكافة يدل كنا صوماليا هذا قدام ياشي حرير كوبد عقد مركزي هالكا إيجار لبورصدي إيجار لجيتي كونا لجيتي أدبيو ما نيغليست أدبيو وأنا عذابتي وأنا لو كبدي مركواكن سكريا شكوى وورجي هاي معلو سميكرا أتى وادي يكود أتى إلغنا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سوبر جول بكرة يحرن أوجو دبيت بكرة سديد سجال مياه تضبط كل عيار تضفينيتي واي إن أداش نيد كلي عليك شكو اسميات علم ديجوكو علم ديجو سكريا تفوسي سكريا شكو سيداري كوكاي ويكا كشوكو دبيتي مس بياجو
وساعبك ولا بدر هذا داود يا هذا وما ستين ملك السود عالم كجوتان ملك السود عالم كجوتان وكما سند السلم إذا عدا مركز راديو مركز كلمية أي نقرأ ساعتين وستة وست مركز لو قد يجيني تبنته هذا وما ستين ما تيمبا أنت عالم مركز جوتان مركز لا ساعة عياتن شيء كتبين نقاط يافر سومالي توصل لغادي على كنت أجرياشة قد كده هي مركز الله أفريقيا لتندس إيمانويل طلاب ديري كباب بحيس كبد سوبته أو طلاب ديري واجيتي واكارك واكان نكاو نكا أرض بدن إيمانويل زيتو بنكو جوجا إيمانويل هاي لقطو كودكي لقطو عبد الله فرح كابتن سويلي تونا ولا قادم مركله هاي ما يقرب داف أنا أوجد حتى أقرب داف أنا أوجد أقرب داف أفرتكي دقيقة دا يا مركان راعدي أفريقيا ليجندس يقول ليسان أي مركان كودو داي تضرب جولي أفر أي مركان ليهين أفريقيا ليجندس تضرب جولي أفر جول saddex iyo mareesha ku dhigantaa haay runtii waxa la soo bandhigay ciyaaraad u fiican halka waxa la istaa simaa la istaahiyo tii qaarkood simaa lagu dhigay yaa naga dhameeyay zaciimka xogaa da'diina waaye markaana kala digray camal eeshkiisa waaye marka maadaama aari badan ay jirin waliba ciyaarta in hadda la soo gabagabeeyo zaciimka ay ku qorxoon tahay maadaama waqti hadal iyo baashaar kale uu dhiman yahay xilli habeena la galay waa laga adkaaday Soomaaliya waa laga adkaaday هاليدي أفريقيا أتكاذي أو تدبقوا لي أفريقيا كله كل مركز همبلي لنا لكن زعيمك ماشى بديس إيه بديس الأنبا مهم الدلو عيار إن عيار لا عيار ما لا صوبان دقي عيار قرحنا ما تلا عياري أنت نفرين وحين نقول قنيسة سيدا وضع كان الصومالية وجه لي زعيمك إن سبورتك الصومالي أو صار إن شاء الله وحن إجدنا سجدنا إن سبورتك الصومالي كسماية ديار لك صراعة كسماية ديار ديارad laga soo raaco la yimaado garoonkan istaadiga muqdisho baydhabo laga soo raaco diyaarad istaadiga muqdisho la yimaado istaadiga muqdisho laga baxo bakool lagu soo ciyaaro gadal la tago si la mid ah marka garowe la aado boosaaso la tago dhammaan dhulka Soomaaliyeed atoosh waa raacaya waa u diidan yahay laakiin fawra laga dhigay waxana qactoosh atoosh waxana inuu kubad fiican ciyaarahay waxana kubadda laga xirta kaliya kubadda laga ninka kubadda isaga haysta gool uu leeyahay waa haduu rabo kubadda ku istaagi karaa isaga haysta waa uu qaldan yahay runtii disciplin maaha disciplin inuu marka ciyaaro saaxiibtinimo la ciyaaray sababtoo gool lagu leeyahay kubadda ninka waa haysan karaa raac kaliya dilin sheeko waa dhamaad garsooraha wuxuu eegayaa seeriga xasan aadan xajuuro wiish wuxuu eegayaa seeriga hadda waxaana markaa u dhowdahay in la dhameeyo 7 gool African Legends 4 gool Somali Legends 4 gool Somali Legends Ocean sheeko waa dhamaad Somali Legends waxa lagu leeyahay 7 gool 4 soo celiyeen African Legends Ocean Stars Legends gadaal markaa loo qadka dhacay markaa taala kooxda Soomaaliya ku badiyay markaa cirka u qaadeen waa la soo difaacisay ninkii goolka markaa la yaab kala dhaliya soo difaacday Zakariya Shakuwa Emmanuel Adebayo talaaba dheer waa loo gooyay waa qabtay waa ista waa dhigay waa baasay cirwaa lagu dhaliyay xaraka lagu dhaliyay xaraka wasiirka hatrik wasiirka waa soo bareejeeyay ee saaxiibkiisa Emmanuel Adebayo hadda Maxamed Cabduqaadir wasiirka wasaaradda ciyaaraha hatrik Emmanuel Adebayo hatrik 8 gool kooxda Soomaalida 4 arag ninka waa ku sheegay ninka kooban ku sheegay waa talaaba dheere wasiirka hawaa la yiri si xarako u dhaliyay waliba ogow goolash halka ka dhashay dhamaantood waxay ku dhashay xarako marka loo eego ciyaartooydan African Legends dhamaan xarako ku dhaliyeen ogow 8 gool ay dhaliyeen African Legends waxay ku timid xarako ay sameeyeen xidigaha markaas qaarada Afrika ugu wanaagsan kubadda cagta wasiirkeena wasaaradda ciyaaraha Maxamed Cabduqaadir runtii legend dhaafay farsamo badan ayuu markaa ahaa hatrik hey waa kan markaa African Legends iljoka finito waa dhamaatay ciyaarta waxaan hambaliyo leenahay African Legends waxaan hambaliyo leenahay Ocean Stars Legends waxaan hambaliyo leenahay wasaaradda ciyaaraha waxaan hambaliyo leenahay dowladda federaalka waxaan hambaliyo leenahay wasaaradda ciyaaraha xiriirka kubadda cagta dhammaan bahda sportiga jecel waxaan leenahay hambaliyo aniga saaxiibkii Cabdullaahi Suleymaan Xasan hambaliyo bye